soo dhawaada soo dhawaada soo dhawaada soo dhawaada soo dhawaada waa barnaamij xasaasiya gabadhii masaakiinta ahayd ee xaarka la siiyey qabiilka siiyey iyo sababta loo siiyey oo argoosi qabiil ahayd. argoosi qabiil oo laba qabiilood ka dhaxaysa gabadha xaarka cuntay ee la siiyey iyo cidda siisay. nafisasiyaad soo dhawo walaashay, soo dhawo hala soo dhawaado. maxamed nuur cabdi iyo dhammaan asxaabta hala soo dhawaado. waxaan rabnaa inaan si cad u qeexno gabadha xaarka la siiyey iyo cidda siisay iyo sababta loo siiyey. barnaamijka wuxuu ahaa barnaamij argoosi laba qabiil ka dhexeeya. wiilka gabadha xaarka siiyey walaashiis oo markeedii hore gabar walaashiis oo markeedii hore kufsi loo geystay iyo cidda u geysatay. daas cabdimire saaxib soo dhawow iyo maxamed cabdinuur dhammaantiin hala soo dhawaado iyo rashka iyo gebi ahaanba fadxa ina subeer iyo dhammaan hala soo dhawaado. dadku waxay isweydiinayaan gabadha xaarka la siiyey maxaa loo siiyey, jacayl miyaa loo siiyey, yaa siiyey, yuu yahay ninka siiyey, sababta u siiyey maxay tahay iyo waxyaabo noocaasay dhammaan isweydiinayaan. gabadha xaarka la siiyey wiilka xaarka siiyey jacaylka la matelay walaashiis baa waxaa hore kufsi ugu geystay gabadha aabaheed. gabadhan waa gabar yar, waa 18 years, waa under age weye. xaarka wiilka siinaya aabihii, wiilka macnaha xaarka gabadha siiyey walaashiis baa waxaa kufsi u geystay gabadha aabaheed. deegaanka ay ka dhacay kufsiga, qabiiladooda iyo sababta ay ku timid baa la sheegaya. waa wixii la isku leyn jiray. dumarku waa la yaqaanaa, dumarka waa la yaqaanaa. ninka la yiraahdo irshaad saaxib waa fideoga hadda social mediaha wareegaya oo laga hadlayo. waa la yaqaanaa gabadha xeerka soomaalidu ay gabdhaha ka leedahay, ama dadka islaamka ama dhaqanka soo jireenka ama waxa laga leeyahay waa la yaqaanaa. iyadoo oo la yaqaano gabdhuhu heerka ay ka joogaan, xataa gaalada meel kastaba ahaatee ama soomaalidu heerka gabdhaha ka yihiin. gabdhaha waa la isku laayaa, laba qabiil baa isku disha, waa la isku laayaa, waa la isku bahalkiyeeyaa. in marka gabar yar oo masaakiina intii jacayl beena lala jiro iyo bahalkii xaar la siiyo oo xaar la cunsiyo liya haddaad jeceshahay isqaawi, oo intaa isqaawiso musqusha tagtid oo isqaawisid waxaad samaysaa, haddii alla kuu idmaayo adoo qaawan waxaad samaysaa iska soo duub video oo xaar cunaya. barnaamijkaas sidee ku dhici karaa? ma ka suurtageli kartaa nin hadhahoba adoo qaawan isqaawi oo adoo qaawan iyo soo dir videogaaga? way dhacdaa dhalinyaradu inay isdhahdo waxaa, laakiin inay istiraahdo gabar oo wiil yaraa si kasta u xun yahay xaar intaad cuntid adoo xaar cunaya video iska soo duub. waxaad dareemi kartaan sababta uu ka leeyahay iyo ujeedada laga leeyahay iyo cid in mataqaana ay tahay xiniyataaba iyo argoosi inuu yahay. haddaba waraa ninka la yirahdo baalkii labadaa youtube maxay kaliin kii hore biinka waa ku qabtay, kan dambana muxuu ahaa suu kugu qabtay. youtube-ka subscribe saara, saaxiibkay baa iska leh, haloo baalkiyeeyo si aad riwaayadihiisa iyo wixiisa ula socotaan. haddaba waxaa isweydiin mudan oo in dadku isweydiiyaan ay mudan, sidee bay ku dhici kartaa dhalinyarada, waxaa uga dhex dhici kartaa, qaabkeybay ku imaan kartaa, maxaa sababi kara wuxuu. laakiin sideeda dekanadu sideeda wax dhammaada maaha. dekanadu wax dhammaada ama bahalkiya maaha. intaana u gelin qabiilka gabadhu ay ka dhalatay iyo wiilka xaarka siiyey qabiilka uu ka dhashay ee videoga iska soo duub adoo xaar cunayo qaawan yiri, inta aan u gudagelin waxaan rabnaa inaan horta isla miisaano. miyeyn soomaaliya way wada ognahay heerka ay gabdhuhu ixtiraamka ama nooca ay yihiin ay gabdhuhu ka joogaan soomaalida agteeda. boqaawi buryar mas-uul soo dhawow iyo darajada ay agteena ka leeyihiin. iska daa soomaali ee adduunkao dhan gaal iyo islaamba xurmada iyo karaamada loo hayo. waa dareemi kartaa wax wiswisa oo baalkii inuusan nina raaxa ka raadinayn, uusan ka ahayn inuu raaxa ka raadinayo ama wax kale uu ka doonayo.
إلا حار عندنا كم راح يستطيع قف فيديو اسكت الضوء وحار عنا وح لقى وسوي ما هم wax qof ku raaxaysanayo ama uu qof danaynayo ama baalkiya waxa dareemi kartaa halkaas inay ku jirto argoosi ama cadaawad ama baalki ku jirto gabadhu waxay ka dhalatay beesha Saleebaan ee habar gidir waa gabar Saleebaana oo habar gidira reexaad Saleebaan bay ka dhalatay adiftaax Axmed Xirsi soo dhawow arinka wali kama soo jawaabin jawaabteeda waa lagaga fadhiyaa gabar habar gidira oo reer xaaji Saleebaana way horta gabadhu wiilka xaarka siinaya sababta u siiyana waa dakane qabiiliya oo laga galay dakane qabiiliya oo laga galay wiilkan walaashiis asaga la dhalatay oo reerkooda ugu weyn baa waxaa kufsaday oo kufsi u geystay gabadhan aabaheed deegaanka ay ka dhacday iyo taariikhda ay ka dhacdayna waa wax walba og yahay ما هم واحد إسكاب مالا يعني بالك إن الإسكاب إن الترو أما الله لحية أما بالك يا ما قبل وجبر هبر جديرة وجبر الصليبانة وجبر ديجانا قبل هذا حكى سوتشي ده قبل ده حركة العنسية ويل كحركة عنسية أفريقيا ده سكونه لي هاي لكن ويل كسوحة لوجي استقبالات قوي نينك حركة سيء مركا حاكو كلفي إنه جبر يرى أو مساكين أو لبا إن أديرت سوى ويسكولوين قبل هان ضد ساو كلا فوق معهن لبا لفظ هكلا شيكتان لكن ساو مسي كلا فوق ضد ساو سي كلا فوق معه إنو قبر يرو إن أديرتي ساو حار عنسيو أو حار سيو سيدي كود عكرتا هدي أي صد عليسه سيدي بي وقت شواب لا ينبيش ريحة سليبان هدي قبر دا ما أنت الدرع هان لهيد أو قبر الدرع هان لهيد والله وأقسم بالله رقبة الله رقبة الله لها رقبة sababta waa xiniya taabad cad oo bareera way xiniya taabad cad oo bareera way in maanta rag loo dilo nin kasto aan dilayo xabada aan ku dhufanayo waxa oran lahaa gabadhii axaarka siisa u dhimo bash gabadhii axaarka siisa u dhimo bash gabadhii axaarka siisa u dhimo nin walba xabad baan ku dhufan lahaa ugu yaraan waxa ka dhici lahayd taariikh la yiraahdo reer xaaji Saleebaan gabdhahooda lama taabto ha laga carro reer xaaji Saleebaan horta waa gob score bay haystaan waa reerka kaliya ee laba qabiil هذا لبا تشيفيود أو درا أو فوق محمد وارير كلي أنت سكينن جوجل نبضت ودقين حتى مكتب بحيوي سكور كأي هستان صومال عيد هستمر لكن ما أنت هرير مرت ما أنت وهرير مرت ما أنت وهرير مرت وحال الربي إني جواب كبحيان أو ركولايان أو ديك أداديان أو اللي يراهدو قبل ريحة السليبان ولا ما تابن كرو صومالي دقن كذا قبلها والله اسكولايا قبلها والله اسكوديلا قبلها والله قول انت ما قبلها وحلقة عيار إن مركا السوشيال ميديا هتيك وكلا أو السليبان أي صوت دقان أو يراهدان قبلها حارسي لقد دقا واحد لقو عياريو أما لقو بالكين يا معهن وإن رجل الله يا ريحة السليبان وحلقة وإن رجل الله يسان رج وأنا ماذا حبيت أقول لك عدان ورج الله يسان ها هدي قبل ذلك الأهان لهايد وحن هو إن وح بدن لقى سمين له وح بدن إن لقى سمين له رعاية السلام هرت وادد أنت بدن ميزان بدن أو أسكت دورة أو بالكي لكن ما تناكل إنك كجب بدن ما تناكل إنك كجب بدن ما هو إن ديك داتا أو رجل الله يا أو نلك الله لسنا ويلك يركع جرتي جبر ولا شيء سنين بريكوف صدي inuu uga argooyo gabar oo uu xaar cunsiyo uu yiraahdo video iska soo duub oo hadana dadka u diro oo xaar siiyo oo halka argoosiga ka gaaray bahdilka noocaas ilaa gabar la kufsaday waliga Soomaaliya waa dhaqan ka soo dhici jiray waligeeda gabar la kufsan jiray waxaan ognahay wiil jareera intuu gabar guursaday oo nin Soomaaliya oo jareera oo dad xamaasha oo la yaqaano oo baalkeen oo gabar guursaday baa reer abtigeed waxay sameeyeen inay gubaan wiil gabadha guursaday waa guurkii xalaasha ah bay gubeen oo dab qabadsiiyeen gubeen gabadhaadii haddii la kufsado xataa waa xeer Soomaaliyeed wax dhaqan ay leedahay wax la mataqaan xaaje leedahay gabar waa la kufsan jiray nidaam baa loo mari jiray laakiin ma soo dhacda xeerkeeba ka qoran gabar video iska soo duub isqaawi xaarna cun la yiraahdo xeerkee ma wala cad iftaax maxirsi nabadoon Saleebaan tahay maaha inaad tiraahdo gabar siirkeed dadweyne dil gabadhu waa wax qaali weey gabadha xageeda la iskama maro nin walaalka dilay intii lagu soo xiro oo geel lagu soo xiro oo lagu keeno oo lagu soo katiinaday xariga waa ka furi kartaa waa sii deyn kartaa mag waa ka qaadan kartaa
برنا اسكو مقايد وحبا كعنك تا وحير صومالي إلا دا ولي نين لسي دين جرو كتينة دا لغا فري جري قبرنا ولي دا لكوفسن جرو صومالي قبل واسوكا لكوفسن جرت نين قبر أروسي أو حلال مهر حلال كو أروسي با waxa loogu bedelay in la gubo oo nolosha lagu gubo oo liya wax jireer adoo jireer say gabadh u gursan kartaa bal fiir reerka gabadhooda say ula qaalisan tahay in kastoo ay qalad tahay in qof islaam ah la gubaba sidee u gursan gabar dhan ee video iska soo duuba isqaawi la yiri ee video laga soo duubay waa baadil waa qabiil la rabo in lagu baadilo waa in la sumcad dilo waa argoosi qabiil wey wiilka gabadha xaarka siiyay waa nin saleeba ee sacada gabadhu waa gabar Saleebaan ninkuna waa nin sacada bal fiiri waa laba reer oo habar gidir wali waa isku bahaway sacad iyo Saleebaan ninkaas gabadha xaarka siinaya ee sacadka ah ee liibaan la yiraahdo waxa hadda ka hor colaadii sacad iyo Saleebaan magaalada Gallisoor lagu kufsaday gabar walaashiisa waxaana kufsaday ninka dhalay gabadhan aabaheed baa ninka walaashiisa kufsaday colaadii qabiilada gabar ka kufsaday gabadhii walaashiisa hay'adda la kufsaday ee waliba colaad ahayd magaalada Gallisoor ka dhacday Gallisoor aan Gallisoor aan isku magaciyihiin magaalada Gallisoor ka dhacday aad taqaanaan ee bandiirad leeyahay halka ka ee goolada leh aad taqaanaan gobolada dhaxa buu uga argooyay inuu wiil odaygii gabadha walaashiisa kufsaday inuu maanta gabadhiisii intuu yiraahdo isqaawi intuu jacayl la jilo ayadoo aan falka iyo waxba ka ogeyn oo gabar yar oo 18 jira inuu yiraahdo intaad isqaawisid video adoo xaar cunaya iska soo dub bal isqaawinta garanay oo waxaan oran karnaa waa iska ciyaal bahalkii oo jirkeedaas iyo gabadhaas ma taqaanaa jacayl buu ku beeray oo wuxuu ka rabay inuu jirkeeda daawado oo waa nin dhalinyaraayo iska bulaayo waaba la garan karaa waa wax dhaca balse in reer xaaji Saleebaan sacad iyo Saleebaan ayagoo ah oo dad dhalasho saas ah in halka la gaarsiyo maanta Saleebaanna uu ka jawaabin taariikhda buuga dahabka bay galaysaa laakiin anigu waxaan qabaa reer xaaji Saleebaan inay arrinka ka falceliyaan inay dad u laayaan boqol wiil oo sacada inay u dilaan ma qabaan arrinka oo taariikhda ay bul dahaba kaga qormato laakiin bari muxuu ku oranayaa warano naagina ma naagaysanay dadka naagooda waa naagaysan naagina xaarkaasi naal oranaya hatta naagnimada uma qurno bal fiiri naagina naagnimada hatta inaan naagaysano uma qurna la oranaya madasha ku fura hadal muxuu hadal kuma furnade gabar masaakiina in la yiraahdo xaar soo cuno video iska soo duub adoo xaar cunaya inta meesh tuujiga soo fadhiisatid adoo xaar cunaya soo duub oo waxa tiraahdaa waa ku jecelahay soo dhe ma ahayn jacayl ma ahayn dadku waxay leeyihiin dhaqan xumo weeye inay naag jirkeedu qaawanin u dirto inuu gabdho ha u dirana nimanka jirkiina qaawan ma aha jir qaawanitan ninku jirka ma doonayn jir hadii la doonayo jirka lagu raaxaystaaye saxaro lagu ma raaxaysto saxaro cidna kuma raaxaysato wuu wiswisayaa waa qurun wiswis baalkiya maan reer xaaji Saleebaan waxaan leeyahay taariikhdiisa in qorin ha gumoobina gun ha noqonina maanta jawaab cad ka dhiciya sacad waa is soo layseen gabdho waa la kala qabsan jiray rag waa la kala dili jiray laakiin noocan lama sameyn jirin midani sacad samaynayo waa xiniyataabad cad weeye sharaftii gabdhuhu lahaayeen iyo karaamadii Saadam Cabdi soo dhow sharaftii gabdhuhu iyo karaamadii ciziga ay lahaayeen baa loo baahan yahay reer xaaji Saleebaan oo maanta midaana aragnaa maalinkii horena waxaad noo keentay nin la yiraahdo roob da'ay oo video iska soo duubay oo yiri waa la iqaawiye oo dabadiisa raba inuu ku dhoofo wax aqli gala ma reer xaaji Saleebaan dad culimo iyo caamo iyo wax kasta la weeye waa awal baan taa inuu kula yaabaneen oo waxaan la reerkii reer xaaji Saleebaan ahaa maxaa ku dhacay maxay tahay ninkan roob da'ay videoga iska soo duuba ee leh ma taqaanaaye waa la bahalkiyay wal maantana waxay maraysaa in gabdhihiinni xaar la siiyo ninkaas dhalinyarada wuxuu sameeyay falkii uu ka waxaan lahaa falka uu sameeyay ku eedeyn ma laashiisa la kufsaday Gallisoor baa lagu kufsaday gabadhan aabaheed baana kufsaday kufsigu ceeb maahan maanta walaashiis caradiisii way ka baabaaday sababta kufsi waligeeda gabdha Soomaaliyeed soo kufsan jirtay balse gabadhii ugu horreysay ee xaar la cunsiiyay intii la qaawiyo reer xaaji Saleebaan bay ka dhalatay taariikhdu waa maguurto
annagu saxaafiyiin baan nahay waan qoraynaa meel baan dhigaynaa historygan kasoo sheekaynayna waxaan odhanaynaa reer xaaji saleebaan agtoodu gabdhuhu qayma kama leh gabdhahooduna agtooda ma sharfaan gabdhahooda uma hiliyaan gabdhahooda wax uma laayaan laakiin qabiilada kale ee soomaaliyeed gabdhaha xaggooda lagama taabto lagama maro waana ceeb in gabar xaggeed lagaa soo maro gabadha haddii la kufsan lahaa anigu waxaan odhan lahaa weligeeda gabar la kufsan jiray yaan waxba laga odhanin yaan laga falcelinin yaan laga jawaabin laakiin tani waa xiniyataabad ilaa caleyk tani waa xiniyataabad cad oo bareera waa xiniyataabad cad oo bareera oo qoys lagu sameeyo ilaah baan inu ku dhaarshay soomaaliya taariikhdu codkaaga hoos buu aadamiyaa tiri war hadda ma lay maqlaa hadda ma lay maqlaa codkaaga hoos buu aaday baa liya ma lay maqlaa hadda sidee bay u aamintay nin aabeed maya ma oga gabadhan waa gabar yar waa 18 jir weeye taariikhda lama socoto ninkanina ma joogo wadankii waa loo sheegay oo gabadhaasuu dhalay oo gabadhaas aabaheed weeyaa layii ninkii walaashaa kufsaday gabadhaasuu dhalay bahalkii facebooka la iska bartay wuu kala xiriiray jacayl buu la jilanka heerkaasuu maanta gaarsiiyey gabadhu hadday aqoon u leedahay ama ay ogtahay may samayseen aabaheed mooryaan buu ahaa mooryaan xunun qori wato isbaaraystaa buu ahaa arrinkaasuu sameeyey falkaa foosha xun buu sameeyey gabar masaakiinuu kufsaday waqtigii sacad iyo saleebaan dirirtu ka dhexaysay ee deegaanada gallisoor iyo halkaa ay ku dagaalayeen bay ahayd gabadhaanina taariikhda war kama hayso cunugani waa qurbahaasuu joogaa afrikada qurba nacaskaasuu joogaa laakiin waqti badan baa ka galay siduu ugu argoyn lahaa gabadha walaashiisa wuu ku guulaystay laakiin waxaa la raba in uu falkaa laga falceliyo haddii walaashiis gabadha aabbaheed kufsaday oo asagu gartay inuu gabadha xaar cunsiiyo waxaa la rabay in rag in loo laayo madax xabad lagala dhacal rab jawaab cad laga bixiyo si aysan mar damba u dhicin si cad in loo laayaa la rabay haddii aysan reer xaaji saleebaan falkaas ka falcelin saleebaan uusan ka soo falcelin ousan rag u laynin oo nin walba intuu xabad bam kaga siiyo loo oran 30 qof baa maanta dhimatay 40 baa maanta dhimatay 50 baa maanta dhimatay oo mid walba lagu dulqorayo laleeyahay gabadha u dhimo gabadha darta u dhima laleeyahay haddaysan dhicinin gabayaa soo baxaya gabayo waa loo gabayaya wallaahi reer xaaji saleebaan waa loo soo gabayaya gabayaa loo soo tirinayaa looga hadlaya inaysan agtoodu qaymo ka lahayn gabdho laakiin sacadka agtooda gabdhuhu qaymay ka leeyihiin sharaf bay ka leeyihiin wakaasaa u soo argooyey walaashiis oo la kufsi loo geystay ka jawaab celiyey haddii uu kufsan lahaa uu kufsi ugu argoyn lahaa macna ma samayseen gabar baa la kufsaday dee wax macnaha ma samayseen wax soomaalida ku cusub maa wax macnaha weyn ma samaynayso haddii mataqaanaa ee aad gabar u kufsan lahaa uu ugu aari lahaa kufsi sababto waxaa jira soomaali weligeeda kasoo dhici jirtay kufsiga waa lasoo arki jiray fiideo qaawana weligeeda gabarnin u diri jirtay dadka social mediaha barnaamijka uga hadlaya marka hore waxaa la raadiyaa xogta dhabtaa ilaa iyo shalay ilaa iyo xalay dhallinyara ka falcelinaysay laakiin waxaan raadiyey xogta rasmiga wiilashii uu fideoga u diray ee asaga ay saaxiibada dhow yihiin isla nool yihiin ee taariikhda saxda haya waa wiil sacada aargoosi bay ahayd weliba aargoosi fog ma ahayne gabar walaashiisa baa waxaa kufsaday gabadhan fideoga uu kasoo duubaya aabbaheed baa kufsi u geystay cad galinsoor bay ka dhacday magaalada galinsoor la yihahdo waxay ahayd waqtigii colaadii sacadka iyo saleebaanka horta ma garate wakaase dhaqan soomaaliyeed fiiri xeer baa la raadiyaa haddii maanta qabiil uu qabiil toori geliyo nin toori geliyo nin xabad ku dhufto soomaalidu dhaqan bay ka leedahay dhaqanka ay ka leedahay waxa weeye waxaa la fiirinayaa wixii wax lagu qaybsan jiray gabar la kufsado xaal looga xaltamay leedahay gabar la baalkiyay xaal looga waxaysmay leedahay laakiin gabar la qaawiyey oo layiri soo qaawi oo video soo duub oo xaar cun bal soomaaliyay idinkaan ina weydiinayaa dhaqanka ay leedahay iyo qodobka soomaali xeerka ee uga yaalla ee lagu baalkeeya waa kee maxaase soo celiyey colaadii sacad iyo saleebaan beri ka dhex dhacday maxaa aargoosigeedii maanta soo celiyey gabar laga wada xajo rag baa la iska laayay colaad baa dhacday
rag baa dhintay rag baa u baaba'ay rag baa u bahalkiyeeyey dhalinyarada social media uga hadlaysa ee dhahaysa gabadhu ayadaa qaldan inay nin video doonto gabadhu waa masaakiin xiriir baa lala sameeyaa kalsooni baa laga abuurtay jacayl baa lagu beeray qof wax ma garataabaa gabar wuxuu la wadaagay bannaanka horta la yimaado oo ummad la wadaaga sababtoo ah asagii naftiisa inay soo dhaafto ma ah laakiin barnaamijku inuu aargoosi yahay idinkoo hadda caqligii waxay isleeyihin dad badan waxay isleeyihin warbaroon muxuu labada qabiil saa oranaya waxaan ka xanaaqay waxaan oranayo laakiin haddii barnaamijka uu ku salaysan yahay gabar nin raba inay u siigayso oo fiideo usoo duubto hadduu ku salaysan yahay dee saxaro laguma raaxaysto xaar laguma raaxaysto fiideoga waa daawateen markaad daawataan madaasaad gabar cawradeeda iyo waxaad u daawanaysaa waxaad gelaysaa xaar la cunayo leya macaana waa ku jeclahay waka xaar waa wiswis iyo wax laga yaqiiqsado iyo labalabaa wax ma ahan mataqaanaa qof dareen gelin karta ama raaxayn gelin karta ama baalkeen karta ma aha sababta uu u samaynayo qofka marka waa garanaysaan haddii uu ka rabo argoosi ahayn uu raaxa ka doon yahay sidiisaa fiideo igu soo dub oran lahayo raaxada sidiisa u qaadan lahaa caddayn waxaa inu kugu filan maxaa kulmiyey isqaawi oo fiideo iisoo dub jirkayga aan ku raaxaysta iyo xaar cun iyo inuu dad la wadaaga maxaa intaa israaciyey idinku maskaxdiina ka shaqaysaya argoosiga aan inii sheegayo wax cad inuu yahay oo loo garanayo ina hebel gabadhan loo garanayo gabar saleebaan oo habar gidira ay tahay ninka cusiyana nin sacda uu yahay oo walaashii kufsi loo geysto gabadha aabaheed u geystay waa wax cad oo bannaankaa yaalla laakiin tan kale ee dhallinyaranimada ee dhallinyarada kasoo dhex dhacda ama baalkiiyo nidaam bay leedahay waa la yaqaanaa intaa gabar baa la wadaa sawirkeeda intaa gabar baa screen laga qaadaya nin baa gabar video ku wacaya screen buu ka qaadaya meel buu soo dhigaya kanuu samaynaya waa wax soo jireena waa wax la yaqaanay waa wax social media ka dhaca waa wax dadka ka wadaaga labada qof markay kala fog tahay deegaan kala fog ay jirto ay jacayl iyo xiriir ka dhexeeyo kalsoonni ay dhex taallo dee horta guurka lagu sheegayo ma ahan wadaadku inuu akhriyo qabiltu nikaaxa wa taswiija ma ahane waa ogolaashaha labada qof ka dhex yimaada meherka ka hor bay labada qof naftooda nafta qof walba ku aamine markaas kadib bay waxaan dhaca laakiin gabar lama oran karo sideebaa gabadha u samaysay fiideo inay duubto oo nin u dirto waayo qofkan waa qof dumara qalbigeeda waa la kasban karaa jacaylna waa lagu abuuri karaa wax kastana waa lagu samayn karaa arrinka waa in laga dhidhiyaa waa in laga jawaab celiyaa waa in laga fal celiyaa xaal iyo xumayn uu leeyahay ma jirto xeer soomaaliya u leeyahay ma jirtee sharafta reer xaaji saleebaan iyo sharafta gabdhahooduba gefkaa weyn ee ficilka ee aargoosiga ee feesha xun ee sacad uu sameeyey waxaa looga fal celin karaa in rag lagu bedelo si aysan dhacdadaa maalin dambe nin u sameeyo jirin wallaahi baysan dhacayn baan ku yidhi iska daa xaar la cunsiya gabar dambe in fideogeeda lasoo geliyo social media haddii dad loo laayo anigu haddii maanta gabadhaa ay ehel ii ahaan lahayd soomaaliyana aan ku sugnaan lahaa wallaahi wa uqsum billaahi intaan dilo baa ninka walba aan dilo waxaan oran lahaa gabadha madaxeeda u dhimo nin walbana waxaan oran lahaa gabadha madaxeeda u dhimo intaa xabad madaxa kala dhaca waxaan oran lahaa gabadha madaxa u dhimo haddii qoomiyada isku baaba'ayaan haddii la leeyahay naartaad ku gelaysaa waa ku naar tegaysaa naartaan ka dooran lahaa sharafta iyo karaamada naarta waa ka dooran laha waxaan oran lahaa aan ku naar tago laakiin ma yeeleen wiil yara oo gartay inuu walaashii u aargooyo haddii uu gabadha u kufsan lahaa waxba kama idhahdeen werigeeda gabar la kala kufsan jira gabar waa la iga kufsan karaa waa la iga dili karaa gabar waa la iga kufsan karaa gabar si xun waa la iga gursan karaa war waxaan ognahay nin masaakiina oo jareera intuu gabar guursaday weliba guur xalaala oo sharaf leh oo caadiya inuu intuu gabar guursaday naftiisa loo gubay maxaa jareerkaba waa la gubay gabar buu guursado meher xalaala iyo golo xalaala u yimide sharaf dhac ma samaynine wiilka sacad ee gabadha fiideo ka soo duubay ee xaarka cun yiri sababta reerkiisa iyo asagaba looga dakana aari laaya maxay tahay war haddii asaga la dilo iyo haddii qoyska la dhasha la dakanada kuma argoodo in dad badan loo daadiyo dhiig badan loo daadiyo si aysan mar damba usoo noqon reecaad salaabaanna sharaftooda saa isku soo noqonaysaa sharafta gabdhaha waa in la weyneeyaa oo ragga laga kormariyaa laga qaalaysiiyaa waa in la dareensiiyaa sharafta gabdhuhu mansabka ay soomaali ka dhex joogaan waa inuu sharafta gabdhaha la ixtiraamaa oo la xurmeeyaa adduun weynahoo dhan baa laga xurmeeyaa
wargaal iyo islaam meel aan gabar laga xurmayn ma jirto war nin masaakiina oo guur xalaala kuula yimid oo islaama oo diinta islaamka ku dhashay baa la midabta kore oo la midab soco waxa la yidhi jareer baa tahay oo isagoo nool baa la gubay maxaa loo gubayey gabadhayada sideed u guursan kartaa adigoo jareera cunsuriyad meeshay marayso sidee loo oran waayey gabadhayada sideed xaar cun u dhihi kartaa intaad qaawisid xaar cun u dhihi kartaa haddana social media uga ciwan kartaa waa gaf weyn ka hadalna mabale waxaa laga garamin baa jirta gar male gar iyo ka hadal midna male wallaahi aysan lahayn oo bilaahi aysan lahayn inay gar iyo hadal leedahay ma lahan xabad ha looga jawaabo soomaalidu waa kala baqdaa indhaheeda markuu ku arko maanta la yidhaahdo 5 nin baa loo dilay markii la yidhaahdo oo loo dilay gabadha aad xaarka siisa darteed u dhimo wiil dambe oo sawir gabdheed soo dhigi social media la arag waxa gabadha tol bay ka dhalatay eel bay ka dhalatay qaraabay ka dhalatay gabar waa la isku laayaa aniga ninka ee garanaya oo baroon ahaan ii garanaya haddii walaashay oo suuqa dhex maraysa ay intaa cali uga tufto anigana i garanaya xataa gacan uma qaadi karo ma dharbaaxi kara uu anuu i garanaya waa inuu aniga marka hore idhaahniyo walaasha waxaas igu samaysa laakiin ma dharbaaxi kara xataa dharbaaxa kuma dhufan karo xataa ma dharbaaxi karo adoo la garanayo inay hebel isku garanayo isku deegaana oo isku baalkii oo inay hebel la garanayo hebel baa waa gabadhaa kufsaday maanta heblaaya gabadhaa kufsatay in gabar la yidhahdo xaar cun soomaali kama soo dhicin dhaqanna kama soo dhicin buugaagta iyo meel history aan ku qoraynaa gabadhii ugu horreysay ee xaar la cunsiiyo reer xaaji saleebaan bay ahayd baan oranna anigu ninku hadduu intuu walaashay arko ay intaa ku tirto u dharbaaxo ku dhufto oo intaan raadsaday hadhow ima dhahay inaad walaashaa way iga gardareen xataa ima dhihi karo maba i dhihi karaba aniga may taqaanaa ahaa sideed aniga ii arki weyday walaashay hadday kaa gardarnayd markaan anigu ka jawaab celin waayo oon mudunka lahayd marsiin waayo oon bannaan kaa marsiin waayo haba la gaare aniga sidee ii arki weyday laakiin waa iga gardarnayd oo waan iska dhacshay ayadaa iga gardarnayd dadka weydii ma yeelaya dee ma ka qorayo sidee marka maanta ku qoraysaa gabadhaadii baa intii xaar la cunsiyey baa la yidhi xaar cun sidee reer xaaji saleebaan ku qorayaan sacdii saleebaan maba kaftami karaanba kaftanku waa ka xiranya war annagu naagihiina xataa siil uma raadsanay ku oranayaan hadhow waxaa koray annagu naagihiina xataa kama doonano galma kama doonno uma galmoonno xaar baan cunsiinaa afkaan xaar ka siinaaya annagu uma galmoonnay oranayaan umaba rabnaba naag ahaanba uma aaminsanay mana u galmoonno mana fiirino mana bahalkeenno ee xaar baan cunsiinaa waa qiimo dhac meel hoose ah fiiri meel hoose wiilka hadday wuxuu dakanada ka argooyey dagaalkii sacad iyo saleebaan waagii colaadii gallisoor gabar walaashiiso nin alkulista oo mooryaana uu ku kufsaday waa ninka gabadha hadda xaarka cunaysa dhalay buu maanta keena xataa fiiri heerka uu ka gaaray wax mataqaana inuu rabay wax aan iskoor aan hore u dhicin inuu sameeyo haddii aad kufsi u geysatid iyo haddaad kufsatid iyo haddaad fitada bateri ka gelisid maxay kuu noqonaysaa waxba kuuma saa'idinayso laakiin wax ummadoo dhan ka wada hadasho oo caan noqda oo taariikhda gala oo la yidhaahdo gabar saleebaana wiil sacada xaar cunsiiyey oo walaashii uga argooyey buu ku sameeyey kuwa intay facebook soo galaanba waxay ku leeyihiin gabdhaha soomaaliyeed ee xaarka ee mataqaana ee isqaawinaya ee wiilasha fiidiyooga u diray war weligeedaa la isku diri jiray gabadhi wiil fiidiyo weligeedaa la isku diri jiray fiidiyo laba qof oo jacayl ka dhexeeya gabdhaha maahan inay mataqaana ama fasahaad kale ama wax kale maahan kalsoonidu qofka uu qofka kale u qabo wuu kula wadaagi karaa dareenkiisa miday kala fog yihiin lamaanuhu xiriirka wuu wadaagaa maalin walbaa wiilashii gabdhuhu wadaagaan mana soo dhaafaan labada qof sababtoo ah cid uu la wadaagayo qaab ula wadaaga ma jirto iyo colaad ka dhaxaysa intay wadaagaan kun fiidiyo iyo kun waxyaabad wadaagaan bay berrina kala haraan oo xiriir ku kala haraan oo laga yaabo salaanta inays iska qaadin babligana lama keena mana imaan jirin dakana argoosi qabiila wiilkan walaashiisa barqacad lagu kufsaday magaalada gallinsoor barqacad baa la kufsaday ninka kufsaday waa ninka isla gabadhan dhalay ninka gabadha walaashiisa kufsaday waa ninka isla gabadhan dhalay xaqu waa soo daayiraa haddii aad dulmi geysatid oo aad reera gabadhoo dulmidid adiga allah ka dhigayo ilmahaagay ka go-aysaa si kasta aad yeeshay haddaad sina geshid waxay ka go-an tahay sinada aad gashay aad geystay iska badaa kufsi dad isgaranayo inay hebel isku garanaya baad gabadhiisii kufsatay
maahan inay soo waarayso baad walaashii kufsatay. walaashiis haddaad kufsatay adigana gabadhaadaa la kufsanaya. kufsigaa qurux badnaan lahaa oo maanta ka sharaf badnaan lahaa, sababta wax soomaali ku cusub maaha. waa waxaynu wada garanayno, hore u wada garanayno, aynu naqaano, taariikhda aynu naqaano. midda kale jacayl yaan lagu dabaqin. jacayl xaar looma cuno. gabar jirkeeda lagu raaxaysanayana xaar iyo soo duub lama yidhaahdo. jir baa meesha maraya. saad video u daawanaysa aqas xaar iyo qurun cidna ma daawato. dadka aan daawan videoga ma rumaysan karaa, laakiin intii daawato way aragto, way daawato. waxay u baahan tahay jawaab celin cad. falkaa laga soo jawaab celiyo. waxaana sugaynaa reer xaaji saleebaan falkay ka soo sameeyaan. haddii reer xaaji saleebaan asbuucan gudihiisa ay dhici weydo in dhiig ka daato oo la yidhaahdo u dhimo gabadha, u dhimo gabadha, u dhimo, ugu yaraan anigu xataa 50 nin oo sacda uma qalmaan baa oran lahaa falkaa. ugu yaraan 100 nin, adiga 150 meelaha waa looga samri karaa. 150 nin waa looga samri karaa. adeer waxay cuntay salaada xataa dhex wax ka duwan. wallaahi ma dhahay xaar bay cuntay. dadkuna ha kala fahmaan gabadha ujeedka fiidiyowga looga soo duubay ee xaar adoo cunaya oo qaawan baby iisoo duub loo yiri maahan jacayl ama jirkeedoo la raba in lagu raaxaysto. gabar jirkeeda lagu raaxaysanayana lama yidhaahdo xaar adoo cunaya iisoo duub ama saxarada adoo cunaya iisoo duub lama dhaho. waxaa la yidhahdaa jirkaaga iisoo duub. warnaaseedii u duubtayo, waxeed u duubtayo, liiskeedii u duubtayo, waxeed u duubta, waxay u reebtay ma jirto. waxeedii jirkeedii dhan, mustaqbalkeedii, futurekeedii, wejigeedii iyo waxeedii dhan balfiir usoo duubtay. maxaa sababay xaar in la yidhaha cun? waa iskoor aan weli loo soo arag. ninkaa walaashiis kufsigii loo geystay wuxuu u aargoostay si raganimo leh. nin rageed dhalay si raganimo u goost. anu gabar baa u kufsan lahaa horta, xaar ma siiyeen. xoogaa waxbaan kufsan lahaa, waxaa soran lahaa dubur baa loogu aargudaaye. dubur ugu aargud. reer xaaji saleebaanow taariikhda waa isqortaa. silsiladii guba waa dhawey dib baa loo furay. dhulbahantay dib ugu furmatay. dhulbahante baa silsiladii guba dib ugu furmatay markii la arkay in somalilan iyo puntland ay isku haysato. baa intii laga yaabay baa gabyaasha waxay dhaheen dadkan la isku haysto lugtanay marba ninku qaadaa maxay yihiin. oo dhulbahante silsiladii gubaa dib loogu furay. gabaygu wuu ku qabanayaa. gabaygu maanta wuxuu qabanayaa reer xaaji saleebaan. guntu dhashayey gabdhaha aan xurmayn jirinay baad noqonaysaa. guntu dhashay ee gabdhaha aan xurmayn jirin. gabdhihiinuna guur ma galaan. laga bilaabo maantana gabdhihiinuna guur ma galaan. gabdhihiinu xataa guur geli mayaan haddiina gabaygaas ka dulqaadin. yaa tahay oranaya gabadha reer xaaji saleebaan. saada hadda anila kasaan koranaya haddii anu gabadha reer xaaji saleebaana anigu naagnimo kama raadiye xaar miyaan siinayaa baan ku oranaya. dee maxay gula hadlaysaa? naagnimo aanu ka doonaya xaar miyaan siiyaa baan ku oranaya. gabar reer xaaji saleebaana maxaan ku falaa? dee waa wax soo dhacay, dhacdo soo dhacday wey. magaca idinku idin saaran yahay. adan anu naagnimo ka dooni maya maxaar baan siiyaa baa la oranayaa moogta. meeshaasaa ceeb iyo caleeg ugu filan. shalay bay ahayd markaad noo keentay nin la yidhaahdo muxuu ahaa magaciisa kii isqaawin jiray fideoga soo duubi jiray roob da-ay oo la yiri waxaa sameeyey tii roob da-ayna fiiriyaa sharaf dhaca meesha ka soco. roob da-ay fideogii oo soo duubi jiray roob da-ay oo oran jiray waa la iqaawiyey. holan baan kugu geynayaa barnaamijkaas ee waa barnaamijkii maxamud carab iyo aan holan ku geeyey. xabsiga muqdisho la igu kufsaday. xamar baa holan waxa ku tagay kusoo qaaday oo aan dacwad ugu sameeyey ninka la maxamud carab iyo adiguna soo samee waxaa ka dhaadhiciyay daahir calisow. daahir calisow waa nin sacda. ninka uu leeyahay waa la kufsaday uu ku sameynaya nin saleebaan u ahaa. bal fiiriya gabadha maanta xaarka cun la leeyahay videoga iska soo duub waa gabar saleebaana. ka ku samaynayana waa sacad. waxyaabaha taariikhda historyga gala fiiri waa wax isdaba jooga. raaxajnama waa beel sharaf aan u haya cisi iyo karaamo. taariikh fiicanna way leeyihiin. iskoorna waan u hayaa. laba beelood oo suraa oo foq maxameda oo isku dagaalay xeraale iyo deegaanka isku dagaalay waa reerka intay igu yeereen gogol u dhigay. xataa raggii ku dhex dhintay dagaalka magtooda bixiyey wey. waa iskoor ay haystaan oo taariikhda aan ka soo dhicin.
laakiin midda sacadku ilbaxnimada uu ku samaynaya ninna isqaawi baa liyo daar cali soo nin sacada yiri isqaawi oo futadaada kusoo dhoof war ma fahant hadda nin Saleebaan hadda magaalada isku aragno oo Yurub haddaan ku arko qurbaa ku arko su-aasha ugu horreysa weydiin horta niyo kaalay Saleebaan futadooda kusoo dhoofaan aduma futadaada kusoo dhooftay baa oranaya dee maxaa dhacdu yaa dee roobda ayuu kusoo dhoofay baan gaftadiisa holan ku yimid aduu ma futadaada kusoo dhooftay xaggee soo martay dadku waxay daamaan xaggee soo martay ma soo taariibtay ma visa ku timid dacwa ku timid ma xagga iyo Turkiga taariib uga soo gashay waxba la isweydiiyaa moogta ninka reexaad Saleebaan oo arko xornimo niyo kaalay ma futadaada kusoo dhooftay gabadha reexaad Saleebaan arkana xaranaya dee haddanu gabadha reexaad Saleebaan xaranaya hadda arko teenaad anu gabadha reexaad Saleebaan raaxa ka raadin maye dee anu xaar cunno ku oran maye maxaa igu saacidinaysaa oranaya la sheekaysan maye moogta xaranaya dee maxaa mtaqaan igu saacidinaysaa inay laanu xaar iyo cun ku oran maye booranaya moogta marka sacadku waa niman ilbaxa dakanada iyo argoosiga hab ilbaxnimaaba u isticmaalaan social media powerna sacad baa ka Saleebaanku dad saa social media baa Cabdi Axmed Xuseen baa ka jira wax social media power asaguna waa oday duqoobe ciyaaraha uu ka fariistay siyaasadda bahdilka ee taariikhda galaysa ee lagu samaynayo marka aad garan weyso wax dhibaato nin dhanoo video iska soo duubay oo yiri waa la iqaawiyo oo rabo inuu fitadiisa ku dhuubo Saleebaan baa laga helaa waxa ku sameeyay sacad oo daayir cali soo fikirka ka dhaadhiciyo nin sacada wuxuu rabay ninka inuu bahdilo afhayeenka galmudug buu sheegay wuxuu rabay inuu bahdilo galmudug waa guri ay sacad leeyihiin moot bahdil buu ka rabay wiilkan hadda gabadha xaarka cunsiina waa wiil sacada fiiri tan waaba argoosi qabiilo dakana tama garad reer xaad Saleebaan waxa in ka sugeynaa falcelinta aa ka soo sameysaan ninkii Saleebaan arta wax kale ha oran intiina hadda meesh joogtay daawanayso wax kale oran nin raaxa Saleebaan hadda arag qofka aan rabo inuu wax ka dhiidhiyo raano raaxa waa jecla waa dad xeertamada sharaf ay laakiin waxa raba inay ka dhiidhiyaan damiirkoodu uu ka dhiidhiyo haddii ay ka falceliyaan maanta oo rag u laayaana waxa la oranayaa taariikhda u galaysa wallahi baan gabar raaxa Saleebaan la oranaynaya inta halkaas soo fartay inaan oranayn raaxa Saleebaan gabadhoodu waa saa inaan qofna oran karin aniga aan oran karin sababta rag looga baqay la dhalatay oo gacan lagu ma gafi karo Soomaalidu waa kala baqdaay ma kala xishooto gabdhana ma xiriso sharaf iyo kalaamana ma xiriso horta ma garateen haddaba ninkii raaxa Saleebaan aad aragtaan qurbahaad ku artaan tira wareedaniyo kaalay ma yaa tahay daawid saraax oo sida aad fiiri waxa oranaya qof baa oranaysa hadda qof wacid gabar hadda wacid ee ku tiraada Sacuudiga jooga xagee joogtaa Sacuudiga jooga waa abgaal hadday gabar markuu tiraado Sacuudigan jooga qabiil kale looma raadiyo daarood ma ahan dir ma ahan hawiye kale ma waa gabar abgaala waa caan way qabiil wax buu caan ku yahay xagee joogtaa Sacuudiga wabillahi tawfiiq qabiilkeeda ma weydiinaysa wow abgaal Cismaan baa oranaysa sababtoo abgaal Cismaan Mareykankooda waa Sacuudiga moogta Sacuudiga Mareykan ah xasan sheekh maxamed baa 250 dhoofiyay Sacuudiga u dhoofiyay wala iska garanaya taariikhda xasan sheekh maxamed wax qabadkii ugu horreeyay xasan sheekh maxamed uu qabto 250 gabdhood oo abgaal inuu dhoofiyo Sacuudiga u dhoofiyahay haddii marka qobar aa wacdid Facebook ama aa ku baratid shaqadeeda ha weydiinin ha ku mashquul shaqadeeda ama qadaamaha ahaato ama burkiyar ha u furnaado waxba shaqadeeda waa ku mashquulin waa gabar abgaala Sacuudiga wixii jooga oo gabar aad aragtid haddii aad aragtid nin Yurub jooga oo Saleebaan baa ay ku yiraahdo waxa wiilsan la maroon wareed iyo waran qeyro qabiil hadda is wiilsan raaxa Saleebaan baa raaxa Saleebaan taam ftada ku soo dhoftay maxaa dhacay sabab haddii gubto waxa tiraahdo nin raaxa Saleebaan qof la og yahay oo dabadiisa ku soo dhoofo waxa la hayaa roobda nin raaxa Saleebaan ah magacaas maalinkaas in raacay qofkii raaxa Saleebaan oo aan ku arkana wuxuu ahaa noqonaya halkaas uu noqonaya halkaas oo gudbaysa gabar saca Saleebaan hadday noqoto ama shan xanuun saadayna daanu maxar baan ku xusinaya oransa sababtoo ah gabdhihii la guursan jiray ama la baalkeen jiray ama lalaha soo jiray waxay noqotay in xaar la xusiyo sacad waa dad aad u dhaqan xun way dhaqanka aad u dhaqan xun Soomaalida way ka dhaqan xun yihiin dhaqanka aragteen ee mooryaannimada ee isbaarada ee googarada furashada ee gabdhaha ee googarada ka furanayaan baa ka daacada macuus sabir hindidii ugu horeysay ee qof sacada oo xirta anu iga furtay isbaaro ku taala bandiirada meesha la yiraahdo macuusti ugu horeysay sabir hindi ana iga furteen
magaalada markaa tagaan u dacwoodaan isbaara halkaana la ii dhigtay anoo taraaga oo beledweyne ku socda beledweyne gaalgacan ka dhex shaqaynayay gaari qudaar bahalkii marna raashin ka qaada marna kasoo qaada odayaal baa ugu tegay meherad fadhiya oo shaah ku cabaya magaalada bandiiradley waa weydi waxaan ku ihi bundadan magaalada bandiiradley baa la igu soo furtay macuus iyo dhar iyo lacagna waa laga qaata xataa macuusaan qabay dhafar baana hasaamaleyl beedo habeen barkeed gaariga sariirtasaan socdo macuus bin calwiyan boosaas kasoo gatay baan dhex galo saa ugu seexday areytani anay ugu fiicantu yiri to iga qaatay areytan anay ugu fiicantahay si waa macuus ugu horreysay qof habar gidir xirto ma soo gaarin waaga macuusaa bin calwiga la yirahdo ma soo gaarin deegaanada habar gidirta ma ay soo gaarin ma isa aqoon xataa macuustan bin calwiga leeyahay ma isa aqoon sabrindii waxyaabaha kale inay yaqaanaan waa macquul laakiin waaga cali saleybaanka bas xiran jiray anoo wiil kibraani oo diradee cali saleyban xataa majeerteenka kale ma xiran jirin cali saleybaanka u badnaa iyo boqorada dadka suldaamada iyo isnada iyo islaamada iyo boqorada ah baa xiran jiray cali majeerteenka inta u badan cali saleybaanka ka xiran jiray anna wiil baarqabo oo tinta saa u feeranayo laba boqortooyaan ka dhasheelo oo baarqablaynayo oo xagga iyo xaggaba u ridayaan ahayo dee deegaan ogsaa baaxad ku marna waxaan kasoo casheynayay meesha la yiraahdo ceeldanaane xeebta la yirahdaan kalluunka kala soo baxay marna degmada tawfiiq baan gadac u seexanay oo dirweynaan dhex kaga jiray marna halkaa iyo mudug iyo xarfa iyo deegaanka dirgo dhex jiro ma jeerteen weynahaas dhex marba meel dee wiil baaxad weyn oo xagga iyo xaggaba ninna diulka kama dowladsana diriya daarooda ku hayo oo xagga u sayrinayaan ayo maalinba dhan u istaaranaya gaarigiisa macuusi ugu horreysay taariikhday ku jirtaa kuwa badan baa hadda soo wacay habar gidir waxay niyo waa kuu gadaynaa macuustaadii baa kuu gadaynaa bin calwiga ahayd lacagta waa kuu soo diraynaa mar dambe ha soo hadal qaadin macuus laakiin macuustaa weligeed ma harayso weligeed lacagteed ma haddaa $5,000 bixisa xataa ma baxayso macuusta ugu horreysay anoo marka baarqabkaasa oo maalinba leyladiisitu iska istaarto marna xeebta garacad dhaya kalluunkaa la iisoo dabo tolkay kalluunka iisoo dabay intaan xeebta fadhiisto marduuf qaada iyo sigaarkiisa iyo sharaabkiisa iyo garbaha looga jiro gabaya loo tirinayo laleeyahay dhaweed 500 gaaray shabeel bahalkii lagu hayo laleeyahay shar looma tilmaamo saa la igu gabiyo marba gabay laftayda hoosaa la ii tirinayo marna boosaasa intuu taga boosaasa deeqa kasoo biyo cabaya marna bahalkii wey marka macuusta habar gidir iga furanayaan laakiin gabadha masaakiinta ah ee beesha reer xaaji saleebaan ka dhalatay ee wiilka sacadka uu xaarka cunsiiyey oo argoosiga ah waa in laga soo jawaaba dhallinyarada social mediaha isticmaalaysa ee gabadha ku caayaysana waxaan leeyahay gabadhan aabbaheed baa galinsoor gabar sacada ku kufsaday kufsigii uu maalinkaa u geystay buuna argoos wiilkan uga sameeyey horta ma garateen argoosiga gabadhan yartaa waa 18 jir laakiin aabbaheed baa wuxuu yahay nin mooryaana waqtigii dagaalkii sacad iyo saleebaanka ay isku dagaaleen buu deegaanada argoosi hab qabiila buu gabadhan u kufsaday waxay inaan la bahdiga ma ahan saleebaan waxaan ka sugaynaa inay jawaab cad ka bixiyaan ragna u laayaan gabadhooda xaarka la cunsiiyey war caqligu intayna ka laayaa gabadha rag cayaarkasa waa dhilo maxay nin fideogeeda ugu duubta maahan dhilo war fiideo gabar nin waa la wadaagtaa kalsoonina waa laga kabsadaa gabdhuhuna waa masaakiin jacaylna waa lagu beeraa haddii aad kala fog tihiinna xiriirkiinu dareen wuu keenaya laakiin ma ahan gabadhu ninku dareen kama rabin gabadha jirkeeda ku raaxaysto oo cawradeeda wada arago qaar sare iyo qaar dambe laakiin nin ma jiraa doonaya dareen ka raadinaya xaar la cunaya dareen ka raadinaya ma jiro wiilkan liibaana ee sacadka ah dhallinyaradii u dhoweyd asxaabtiisa uu u diray haddeer madaxa dadkii waa la iskula jiraa arrinkaa gogol baa looga fadhiyaa laakiin reer xaaj saleebaan arrinkaa gogol ha ka gelina anugu leeya reer xaaj saleebaano ama dadka xaarka cuni jira noqda oo xaar cunayaal awal baa layni aqoodo noo soo caddeeya oo yidhahdo war gabadheeda xaarkaan cuntaa ujeeda annagaa weligay xaarka soo cuni jirnay ama gabadhiina xaarka la siiyey ee nimanka sacad ay siiyeen gabdha waa la isku laayaay gaal iyo muslimba gabdha waa la ixtiraamay waryaa jareer baa loo gubay gabadhayada see u guursatay gabadhayada see u guursatay bal fiiri reer baa wuxuu leeyahay gabadhayada see u guursatay waa guurka xalaasha buu nin jareer u gubaya idinkuna gabadhiinima intii la qaawiyey baa xaar la cunsiiyey markaas la soo fadhidaan meesha shalayna intaa isqaawiseen baa dabadiina rabtay inaad dibadda ugu dhooftaan war wax xaar ku kacsada male mala xaarku ku kacsadaa kulaha wax xaar ku kacsadaa male dareen horta waxa inaad fahantaan dakanada horta ninkaa dhallinyarada waxaan leeyahay inaad ergacli waxaan samayn lahaa waa samaysay sababto anigu waa argoosan lahaa
waa nin walaashi ka weyn la kufsaday wey haddana nin kale ma kufsana isla ninka gabadhan dhalay baa kufsaday haddaad gabar reerood kufsatid ama aad wax ku samaysidna gabadhaadaa laga goynaya horta ma garateen sacadka waxaan leeyahay aniga macuusteyda ma goyn kartaan sababtaa macuus bini calwiya oo qaaliya baad isbaarada bandiiradle iga furateen deegaanka ay degan yihiin dekadna male aeroboorna male horta reerkaas geedka intaasu leegyahay daaqsinna male oo dhul daaqsimeed oo daaqsinna ma ahan waqtiga ayada ahaa waxay u oli jirtay isbaarada xataa laflaf tanfaralaha tareeja laflaha hilowlaha ayaanlaha war waxaan ku yidhi laflaf gaariga candhameydlaha markaa isbaaradan ka dhaqaaqdid tabeetigiisa dambe shalmadihiisa waxay qabanayeen isbaarada kale labada isbaara midna waxaan taaganaha afkiisii midna waxaan taaganaha dabadiisii waa laba isbaaro fiiri midna afkiisii baan taaganaha midna dabadiisii baan taaganaha odayaashoodii markaa u tagayo waa la soo furtan waxaa lii maxaa laga qaasaan ku nin lacagna waa laga qaatay waa la ibaartay lacagtooda waxba kama rabee bal macuusteeda iga siiya dee nin waa garanaysaa safar oo taraagla ah oo macuusta markuu magaalo tago hoteeladiisa ku seexanayay oo waxaan ku yiri bal macuusta iga siiya dhafar baan aan ku siisa macuus maxaa yeesaan ku yiri macuus bin calwiya ilaa hadda bin calwidi way garan odayaasha ayagoo garan waayo oo yiri bin calwi u qaba dahab la iga qaatay bin calwidi waxay u qabaan dahab aniga la iga qaatay dahab in aniga la iga qaatay u qabaan bin calwidi dahab bay moodeen waxay yidhahaan dahabka lagaa qaatay muxuu yahay waxa aad dahablaynaysid dee anuu laandheero dhalay baan ahaaye waa isaga tegay hadda rag badan baa ila soo xiriiray oo sacda oo ilaa $2,000 baan kuu soo diraynaa waagaa macuusta bin calwiga aan kaa qaadanay macuusta ugu horreysa aan xirano faraha ka qaad ee iska daa ee reerka mataqaanaa mar dambe macuusta ha sheegan haddii ahaan lahayd xataa waqtiyada caadiga waa iska dayn war majeerteenka dhana laguu sheegayo waagaa cali saleymaan baa macuusta ka xiran jiray adeer cali baa loo yaqaanay bin calwiga boqortooyadoo kalea xiran jiray boqor burhaan iyo oo kale macuusaha iyo cumaamadaha weyn oo shaalasha iyo macuusaha bin calwiga iyo boqortooyada dadka boqorada iyo isimada iyo suldaamada ayaa xiran jiray laakiin dad caadi u xirto oo ku xaragooda beesha cali saleymaan basaa jiri jirtay waagaa ayadoo heerkaa la maraya cali saleymaan jiri jiray basaan ka baxshay hadda waxaa la gadaa $40 iyo wax noocaasa la gadaa waagaa waxaa la gedi jiray $75 $75 baa la gedi jiray laakiin deegaanka hawiyaha may gaarin waagaa deegaanka hawiyaha may gaarin way ku cusbeyd oo waa baalki arigaa laga soo wada hadlo waa in loo baaqaa reer xaaji salebaan waa inay falcelin ka sameeyaan waa inay rag u laayaan wallaahi wa uqsim billaahi hadday gabadha maanta ahaan lahayd gabar dira wallaahi wa uqsim billaahi hadday gabar dira ahaan lahayd tintaa looga saa rag baan u layla nin walbana waxaan oran lahaa bam gabadhi xaarkaasiisa u dhimo bam u dhiman gabadhi war ma waxaa dili weydeen 150 nin oo sacdaa dili weydeen 150 nin oo sacda taariikhda qabuurihii sacadka u bixiya 150 nin oo sacda intaad dishaan hal meel intaad dishaan meydkooda issaartaan oo hog weyn u qodaan cagaf soo qaadaan weliba si caadi ah oo asir cagaf soo qaadaan oo soo ururtaan qabuurihii sacadka u bixiya waa saan u samayn lahaa 150 nin oo sacda intaan madaxa bad kala dhaco gabadha la adligeed baan intaan god weyn saa u qodo baan intaa saa u gediyo baan oran lahaa qabuurihii sacadka taariikhday gel lahayd gabadhi xaarka cunta sooma qabuuri sacadka la oran laakiin maanta haddaad dabcadaan nin inaad la kaftantaa sacada wuxuu koranayaa war niyo maxaa aniga shaqsanaa niyo habargidaan gabdhiina war haddaa gabdhiina si luma doonto koranaya xataa inaan u galmooda u kacsada xataa uma doonto kule uma kacsada xataa anuu xaar inaan siiyo mayo uma kacsada xataa de waa bahadil meeshii ugu dambaysay waryaa jirkeedu dareemi waaye raaxuu ka qaadan waaye istiin buu ka heli waaye waa u hawoon waaye xaar buu yiri cun bal fiiri war gabadhaa yartaaye 18 jirkaaye macaankaaye sulubkaa ee jirkeedu saa u macaan yahay ma ahayn de in la yidhahdo xaar cun waxaaba ka filnaa catuutiga yarkaaye ku yaalla iyo shaxshaxdan kale iyo waxyaabahan kalaaba ka badnaan lahayd moogta ma ahayn in la yidhahdo xaar cun ma ahayn maxay ka dhigantaa marka dareenba uma hayo macnaha dareen iyo baalka iyo agta naagba agtayda kama ahno dareen iyo damiirba uma hayo macnaha cun saxaradaada cun macnaha jacayl ma salaysnaa waa aargoos wey ninkan gabadha walaashiisaa la kufsaday kufsi baa loo geystay nin walaashii la kufsaday marka ma laakiin aniga hadduu ninku gabadha kufsan lahaa aniga nin walaashii aniga ila dhalata haddii kufsi loo geysto aan ka dagaalamo oo nin walaashii la kufsaday aan ahaado laakiin nin boqolaaba intii la dilo katiinad la isku xira xariga laga furi jiro Soomaali xeer bay ka leedahay wax ku cusubna ma noqonayo gabar baa la kufsaday laakiin gabar baa xaar la siiyay waa wax cusub de
hal asarin bay uga hari kartaa marka anu saleebaan baa baaqa u diriya hal arrin bay uga hari kartaa hal arrin bay uga hari kartaa qabuurihii sacadka hala sameeyo qabuurihii sacadka war 150 nin baa loo dilaa 150 nin inaa u dishaa xaq u leedahay soomaali caado iyo dhaqan iyo soo jireen midna uma laha fiiri gabadhan waa gabar yar oo masaakiina oo baalkiya fiiri maxaa iska galay aabaheed qaladka uu galay maaha in ayada laga gooyo gabadhan aabaheed baa madow soo dhawo madow cabdi gabadhan aabaheed baa wuxuu kufsi u geeyey waqtigii sacadku iyo saleebaanku isdagaalayeen magaalada gallisoor wuxuu kufsi ugu geystay wiilkan walaashi waa laga xaajooday gabadha wiilka aqoon uma leh wuu tegey meelahaasuu tegey wadamadaasuu tegey wuu iska xamaashay afrikada weli africas wataa qurbo ma joogo iska xamaashay dad boo hayb wareysa wuxuu yiri wax gabadha ma garanaysaa inay balkiyo inay hebel baa joogtaa lagu yiri sidii jiro gabar baa hadda u soo kacday ninkii waay gabadha walaasha kufsan jiray maalinkaasuu bilaabay inuu xiriir gabadhi la sameeyo jacayl buu la jilay xiriir buu la sameeyey kalsooni buu ka samaystay dareenkeedii jirkeeda uma baahnayn idinku waxa u fasiraysaan gabadha ayada isqaawisay nin bay fiideo u dirtay war jirkeeda uma baahnayn walaa liiskeeda u baahnayn walaa naaseeda catuutiga u baahnayn nacla ka yal naasa ku yaala qurux badnaayana baa la yaroo salka hoose u fadhiyo oo kala iska arag subxaanaka yaa cali aniga waaba iga badnayd ba aan horta fiideoga waa iska daadaawaday markii la gaaro inta shukulaata cunkan ka boodaa inta kalaan si fiican laakiin isaga daawanaya moogta fadhiyo baa la fadhiyo oo naclaa ka yaala dhex yiriiso madag ah sabig yar oo madag dhex yar ah qurux badan oo xuruun cayno aan la tuuri karin waxaas miyaa loo quuri karaa sharaf iyo karaamiyo cisi bay leedahay waxaasaa loo quuri karaa sharafda subxaanaka yacni wallahi billahi tallahi waxay ahayd baan ku yiri weliba aniga baroon ahaan moodalkii aniga igu wanaagsanaan lahayd madaxaasaan saaran lahaa si qurux badan geel baan ka bixin lahaa lacag baan ka bixin lahaa wariyaa fadhiga ayadoo ila fadhidaan tartiib intaan saa isaga qaato baan caadi jiifkayga xataa ma kiciin habeenka hadda iga horgamaado xataa ma kiciin wallahi baana dhaheen baby kac sababta wax yaroo intay qurux badan tahay catuuti too kaale iska araga ma wax la sharafteeda loo quuri kara maaha intay sharaf dhac subxaanaka yaa cadiima hadda anu fiideoga cabaar kadib waa isaga socoshanaya inta shukulaato cunida marka la gaaro umaan ka goosanaya alla ya mooye inta kale saan ugu haysto kaale iska arag haddii laakiin maanta reexaaji saleebaan wallaahi ay u laayaan rag ay ka jawaabaan tan waa tii ragga loon jiray ay bixiyaan qabuurihii sacadka ay sameeyaan oy rag u laayaan gabadha anaa uga gogol fadhiisanaya gabadha laftigeeda anaa uga gogol fadhiisanaya gabadhii ragga loo laayay naagtaada waatee dee gabadha ragga loo laayaan qabaa subxaanaka yaa cadi gabadhii ragga loo laaya baan qabaa baan ka rabaa keliya macnaa ma fahmaysaa gabadhii ragga loo laayay baan qabaa landheera dhalay de hadda waxaan ku guursan lahaa hadda gursaha soo qorina waxaan ku guursan lahaa waa in rag loo laaya laakiin ma waxaan guursadaa gabadhii xaarka cuntay oo la siiyo oo tolkeedna ka bixi waaya wiilkaygu abti yeelan mayo wiilkaygu aniga abti yeelan mayo wiilkaygu inuu abti leeyaan rabaa laakiin haddii ay dim gabadha darta u dhimo bum ay ka dhacdo beesha direed waa ay maqlaysaa ilaahay baan ku dhaartay khaasatan gaadsan waa ay maqlayaa weliba ugaaskayga baan hadda wacayaa waxaan leeyahay haddii reer xaaji saleebaan ay ka falceliyaan arrinkaa oo ay gabadhaa falkaa ay ka falceliyaan oo ay rag u laayaan oo ay ka dhacdo gabadhi darteed u dhima ay ka dhacdo adeer iidoon baan odhanaya ugaaskaygaan odhanaya adeer iidoon maxaan ka rabaa mataqaana dee wax yaroo qurux badan oo isneel laayo moodalka adduunka loogu jecel yahay oo qurux badan catuuti aan la tuuri karin way tahay ilaah baan nale haddana waxaan uga dhimanayaa gabadhii ragga loo laayay baan qabaa ninka qabaa gabadhii ragga loo laayay ninka saa firiix oranaya adeer gacli markaa waxaan oran lahaa mataqaanaa diinta allo iga saar sacadka waxaan ku oran lahaa mataqaanaa war sacadka a ka sheekaynaysa xaaskiga ka qaalisan baan oran lahaa sacad xaaskiga ka qaalisan 50 nin oo sacad ah baa xaaskiga madaxeeda loo dila sacadii xaaskiga yaa qaalisanaanaya mataqaanaa markaa naagteedaa qaalisanaanaysa beesha sacad way ka qaalisanaanaysaa 150 nin oo sacada gabadha loo dilay soo naagteeda ma noqonaysa markaa naagteedu yay ka qaalisan tahay sacad bay ka qaalisan tahay nin sacad ilaa la kalaa ma jira dee sacad ana oodina kaga xirnaa iskamiina garan barnaamijkan mudduu soo socday waa in soo qabanaya aragtidiina xataa mudduu soo socday barnaamijkan soo taagay gacanta waa in soo qabanaya barnaamijkan mudduu soo socday roobda ay ninka la yiraahdo daari cali soob waa ninkii ku yiri fiideo soo duub waxaad tirahdaa waa la iqaawiye fiideo soo duub daari cali soob waa nin saleebaana nin sacad ah wax ku sameeyay taariikhda ugu jirta nin saleebaana hadda qurbaa ku aragtay waxa oranaysa war madfataada ku soo dhooftay ma qaylin kara dee hadduu dhawartaan uu saleebaan waxbaan ku naqaanaa hal mid saleebaan qurbaa hal mid buu ku yimaanaa dabadiisu kusoo dhoofaa roobda ay baa ka dhashay dee ma roobda ay suu kusoo dhoofaa kusoo dhooftay waa wax taariikhda maanta magaca gala xaarkaana maanta meeshu inii gelaya
horta ma garateen gabadhaas waa in rag loo laayaa oo dhiig loo daadiya anaa ugu horeeya ragga ina kasoo doonaya ugaaskigaan la hadlayaa ugaas cabdirasaaq haddeeraan la hadlaya aniga ugaaskii ugaas cabdirasaaq baa liyaa waa nin dhallinyara oo da'yar gabadhaas xaarka la cunsiiyey ee la qaawiyey ee sacadku qaawiyeen ee dakanadaa ku sameeyeen ee gabadhii hore ee sacadee la kubsaday uga aargooyeen haddii Saleebaan rag sacada u laayo adeer gabadhaa waa qaali ugaas ii doomaan oranaya ugaaska ii doonaya waxaan ka rabaa kaliya gabadhii ragga sacadka loo laayay buu qabaa baroon baan ka rabaa xiniyo dheeriga ah kuwa wuxuu ku leeyahay cari soo qabo kuwa xanaaqsan alla ya isakaanay waan soo qabanaya maxaa sheegaysan min sacada wuxuu leeyahay cari soo qabo anaa aad baan kuu salaamaya axmed cabdinuur iyo dhammaan soo dhawaada rag sacada gabadha waa in loo laayaa si aan gabadhayda xaaska ugu tago gabadha sharafteeda baa lagu ciyaara karaamada waa in ka guursanaa bal wax ka hadal adeer maxaa ka hadlaysaa nin weyn baa tahay waxaa day nin weyn baa tahay car isoo qabaa tiri nacas hay u noqon ninkii dhamay car isoo qabay barnaamijka la socday nacnacna la soo dad hooyadaa baa ka hadlayna aftadeedii ah aftada ka was qabiilkaad caayisa anaa ka dhashay hadal naag iyo naag ku dhaw maxaa ka hadlaysaa okay wajigaaga isku aad haddaan raga tahay marka maqoladii waxaa tahay gabadha laga kufsaday baa tahay masqoladii kufsatay baa tahay meeshaana waxaa la imaanaysaa wax been oo aad meelaha kasoo fataysay horta nin raga haddaad tahay wejigaaga ku aadi wejigay ku aadinaya guskaygaan kuugu aadinaya doofaarti ku dhasho gus nacalla adiga hooyadaa ku yahay qabiilkii gabadha kufsaday baa tahay meeshaana waxaa la soo galaysaa bararaq iyo gabar baa la kufsa adaa lagu wasayaa laftigaaga ku wasaynaa wallah doofaar baa ku dhashay adiga laftigaaga wallahi adaa lagu wasayaa wallahi gabar baa ka hadlaysaa war adoo ah marka dadka sharaftalo intaad lifeka soo geshid aad ka hadlaysid afaarooda inaad ka baxdid ku fiican qabiilkaaga sheego laangaab dhalay oo 4 xabaa oo adiga dhan hal xaajeed qaado baa tahay markaas qabiilkaaga ii sheeg oo qabiilkaaga ii sheeg aniga sacad baan doofaar baa ku dhashay sacad ha sac waa gartay wuu cad yahay sac madow yaa marka qabiilkaaga dhan baa qabiilkaaga magaca sacad magaciisa garaca sacad qabiilka la magaciisa garaca sac waa neef loo oo sac oo cad hooyada ana midabka cad wax kala ma haysa adeer mid baan kuu sheegaya laangaab ku dhalo caloosha weyn adeer wejigaaga ha ila doodi nin raga haddaad tahay wejigaaga mid baan kuu sheegaya waa la wejigaaga banaynaya bax hooyadaa wax u sheegay dhiladii ku dhashay nin wejigiisa banaynaya banaanka ha iskeel oo madashaa wejigiisa ha la yimaado anaa sacad ah sacad macnaheeda ma taqaana cad maxay tahay marka qabiil miyaa noqon kartaa loo cad ma noqon karta dee qabiil sacad baan ahay maxay tahay loo cad baan ahay qabiil ma noqon kartaa wejigaaga ku aadi halkaas soo fadhiiso hambar u soo fadhiiso nin habar gidira sacadaan ahay kanaan ahay madashaa la soo fadhiiso baarqab dhalay oo baaxadu intaa la egto iyo shafku intaa kala marayo garbihiisu halkaa kala wallahi xataa kaamirada labada garbood miya aragtaan bal fiir kaamirada meesha iga taala garbaaga xataa ma arkaysaan haddaan taakeeyo waa 8 taako baarqab oo banaankaa fadhiya yaa tahay markaad tiraahdo dir baan ahayo mahadiro gaadsan oo ree dhaweedo ree cigaalo ina xaashi colow baan ku oranaya banaan yaallo baarqaba dee sacad baan ahay anigu sac madow annagaba waa noo joogaya sacad laangaabta ku dhasho waa siyaadha waxaasaa meega soo qabsanaya cari soo qaba fiir mid kalaa soo qoriya war kulligin waa in ciil bi'inaya soo qabsada meega saleebaanaad xaar cunsiinaysaa raggiinaa loo laynaya markii la yidhahdo waad gubanaysaa wallahi rag baa loo laynaya reexaad saleebaan rag hadduus u layna gungun dhashay uu noqon rag loo laaya dayb wejigaaga ku aadi hooyadaa baro xarfa ka wasa ama bax maxaan kaala hadlaa ya waa noocaasa wejigaaga ku aadi madashaa soo fadhiista sacad maanta xaqaa loo sheegayaa saleebaan reexaaji saleebaan rag haddaan loo layna gabadhaasna wallaahi bilaahi tolaahi gabayaa inii soo baxayo waa la inii gabayaa reexaaji saleebaan iskoor buu haystaa horta iskoorkooda inii sheego wiigii lasoo dhaweegsamay 2 reerood oo dira oo fuqo maxameda oo isku dagaalay
meesha la yiraahdo gobolada dhexe waa reerka intuu gogol u dhigay xataa raggii ina ka kala dhigta magtooda anaa bixinay saleebaan xaqiri mayo waxay sameeyeen laakiin saleebaan haddii maanta gabadhoodu haddii la kufsan lahaa gabadha waxbay ahaan lahayd laakiin wiil walaashi waa la kufsaday gabadhii inuu intuu yidhahdo video iska soo dub isi soo qaawi uu yidhaahdo looga aamuso dee xaaraan calee haddii laakiin ay gabadhaa ka falceliyaan sumcadda iyo sharafta iyo karaamada reer xaaj saleebaan waa soo noqonaysaa rag ha u laayaan rag waa ina u laayaan wallaahi bilaahi tallaahi waa inii dhaaranayaa qoryo xeraalaanahay waa inii dhaaranayaae haddaad falkaa ka falcelisaan gabadhaas cawradeeda social mediaha la wareejinayo inaan guursado oo madal ku guursadaa ballan haddaad ka falcelisaan sida xaajadu ahaan jirtay oo aan doono oo u gogol fadhiisto geel iyo sharaf wixii laga bixin jira aan ka baxsho laakiin waa markaad ka falcelisaan oo rag aad u laysaan rag waa inaa u laysaan anaa saleebaana yarkaagaan samiya axmed ugu qoran tahay malihid kaamirad malihid adeer waa in rag loo laaya si jawaab ah maalinkaa rag u laysaan oo falkaa aad ka falcelisaan madal baan ka 409 qof baatiin qof la garan waaye maahan waxaan madal qaadayaa inaan gabadhaa u gogol fadhiisanayo xaal waxa ay gabar lahaan jirteen aan ka bixinayo arooskii qarnigana aan u dhiganayo weliba ugaaskayga ugaas cabdirasaaq baa leeyahay haddeeraan leeyahay iyo doon laakiin reer xaaji saleebaano waad gumowdeen oo sharaftiinii baa dhulka lala galay oo gabadhiinii baa intii fiideo laga soo duubay soomaali gabdhaha waa ka dagaalantaa reer xaaji saleebaan sharaf dilkooda anigu waa i dhibayaaye tolkay weeye gabadhaa ka falceliya oo jawaab cad ka bixiyo rag u laaya weliba ragga aad u laysaan xataa meydka qabiilka markii nin laga dilo waa la siiyaaye hasinine intaad cagaf meel ugu aastaan saa ugu gediya waxaad tirahdaan qabuurihii sacadka u bixiyo raggii gabadha loo laayay qabuuriyada u bixiya haddaad taa samaysaan ay madasha ka dhacdo oo liya rag baa loo dilay marag ilaahay waxaa ah inaan gogol xalaala ugu soo fadhiista iyadoo laleeyahay gabadhii social media weliba nin walba cawradeeda iyo social media ay dhex taallo inaan gusada dhuuba dhex yartaa sharaf iyo cizada iyo karaamada looga ciyaaray ee lagu bahdilay ee sida la raba laga yeelay dekanada aargoosiga laga sameeyey war gabar baad ka kufsateen gabadha aabaheed gabar buu kufsaday ee nin muu dilin rag muusan layn gabarna weligeed baa la kufsan jiray horta ma garat laakiin ma ahante inaad bahalkiisaan ma ah sacadkaan oynaya ku haya maxaa loo leeyahay hala laayo war waa lagu laynayaa waana lagugu dilayaa waxaad baratay maalin walba gabar reeroodo islaameed oo intii la bahalkeeye waa la iniin laynayaa waa la iniin dilayaa waana reer xaaji saleebaan inay ka bahalka celiyaan waa inay ka jawaabaan iskoorada u yaalla waa inay qayb ka dhigaan maxaa kulmiyey wayna ogeyne tii daahir calisow uu ku yiri ninka la yiraahdo uu ku yiri roobdaay ninka la daahir calisow samee dowladda farmaajo anaa mucaaradaya adigu cawradaada aan ku mucaarado nin dhan baa waxa lagu yiri dowladda aan mucaaradayo futadaada igula rid oo video iska soo duub kadibna holan baan ku geynaya video iska soo duuba waxaad tirahdaa dowladda farmaajo waa la iqaawiyey waa la ibaalkiyey baa lagu yiri futadaadaan kugu dhoofinaya videos futadaada dowladda igula rid dowlad haddaa mucaaradaysa ceebaha doontaa u samayn karta laakiin nin futadii dowlad laguma rido moogta ninkaa shalay arrinkaa lagu sameeyey saleebaan buu ahaa ninka ku sameeyeyna sacad buu ahaa gabadha maanta la yidhi isqaawi oo adoo qaawan saxaradaada cunna waa isla bartii waa isla barti wey waa in laga jawaaba adeer madow soo dhow aad baan kuu salaamayaa saaxiib qaali arrin xaasxaasi leh wallaahi habeen horaan arkay codkayga ma la maqlaa horta ha waa lagu maqlaa ku soco habeen horaa wallahi anoo shaqada ku jiray gabadha miskiinta falka iyo dhibaatada laga geystay adiga dad isguursaday oo kala carcararayo oo kala dhudhuumanayo mataqaanaa ayaa nin loo dilay oo reerar dhan loo xirxiray nin maskiin loo dilay meher xalaal gabadhan masaakiinta intuu nin mataqaanaa oo qashin oo bakti oo wax dhintay ka hooyana ma dhalin gabar walaalna lama dhalin baan u maleynayaa gabar walaashii intuu yiri musqusha gal isqaawi xaarkana cun uu yiri gabadhana uu bahdilka intaa leeg uu ku sameeyay social media haddana uu ku qaybiyey ilaahay baan kugu dhaartay ninkaasi horta ninkan
gabar walaashiisa baa magaalada Gallisoor waqtigii colaadda Sacad iyo Saleebaanku ay dhex martay gabadha nin Mooryaana dhalay waana gabar yar aabeed baa waxa sida dadkii xogaalka ay sheegeen wuxuu kufsi u geystay ninkan walaashii ka weyn wiilkan wuxuu joogaa inaa maqashay baan u malaynayaa wadamadan Afrikada صح meelahaas Tanzania Uganda miya ma aqaan meelaha wadamadaas jooga halkaas uu gabadhu joogaa laakiin gabadha aabeed wuxuu sameeyay gabadhu mayna sameenin laakiin gabadhu gabar miskiin oo iska sabi bay ahayd oo iska waxay maya gabar waa la kufsan jiray haloo kufsado xataa haloo kufsado waa wax caadi mowt laakiin tani waa toogasho wax Soomaalida lagu dhax arkay ama aan maqalay ama gaaliga muslim ay sameeyaanna ma aha yuhuudda xataa tan oo kale wax laga arkayna ma diinta islaamka xataa ma qabto diinta gaaladana ma qabto gabadh miskiina intii masquul la dhax fariisay isqaawi la yiri oo laga duubay cajalad oo haddana cajaladii social media ayad xaarka cun la yiri oo social media lagu faafiyay gabadhaas ilaahay baan kugu dhaartay reer bay ka dhalatay walaalay leedahay qabiil bayna ka dhalatay haddii gabadhaas magteeda aana la bixinin oona loo yeerin ninkaas aana la soo qaban intiirka la soo joojinin waa inay mataqaanaa gabadhaas familkeedii dadkay ka dhalatay iyo Soomaali oo dhan in laga dhidhiijiyo way oo reerkaas dhibaatada dad ba qaar wax u dhigay waxay ku leeyihiin gabadha ayada qaldan fiidiyowga raaxa loo lama jeedin raaxa iyo saxaro la iskuma dhex daro argos iyo day raaxa iyo saxaro la iskuma dhex daro taas absolutely taas wax dhacday oo adduunka aan ku aragnay ma naagaha sexiga sameeya xataa waxa siiyo oo social media baadigooda wareejiyo waxaas xataa kuma dhaqaaqaan mana sameeyaan gabadhan gabar Soomaali ee magacii sharafta Soomaali jareer baa haddaraad loo diidanaa gabar laakiin waxa soo baxday gabar intii masqusha gal la yiri xaarka cun la yiri oo life u fariisan la yiri haddaad ijeceshahay oo lagu bahdilay reerkooda oo lagu bahdilay walaaleed oo lagu bahdilay tolkeed oo lagu bahdilay xataa diinteedii iyo isirkeedii iyo lagu bahdilay Soomaalinimadeeda wax aan aragnay oon maqalayna ma aha arrintan waa ninkan saa sameeyayna waa la yaqaanaa meeshuu degan yahay wuxuu yahay iyo qabiilku yahay waa la yaqaanaa marka gabadha haddayna rag la dhalanin annaga u aareyno Soomaalinimaan ugu aareynaa waxa weeye diinta islaamku waxay ka qabto qofka saa lagu sameeyay haddayna gabadha tol iyo qaraabi iyo midna ayna lahayn annaga u aareyna gabadha Soomaalinimaan ugu aareynaa waxa weeye dhiig wallaahi oo billaahi nimaana mataqin nimaanan ooyin nimaana ka qiiroonin Soomaalida oo dhan lama arag waxaan wax taariikh oo na soo martay aan maqalay sheekiyo shaad Hitler xataa waxa uu sameyn jiray Hitler caadi dadku dili jiray oo yuhuuddu foornadu gali jiray war sidaad ugu quudaa gabar walaasha oo Soomaali ah oo miskiin aday ku jeclaatay inaad bahdishid oo masqusha gal tira isqaawi aad tira haddana xaarka cunsiisay oo haddana social media ku qaybisay argosi waxaas waa argosi lama dhahadee waa damir xumo wey laakiin ninkaasiyo gabadhaas wallahi maanta inay noo sheexataa uma maleenayo because cunug yar weeye waa cunug 18 ilaa 16 17 u dhaxaysa weeye oo fikradeeda iyo kaskeeda xataa maankeeda xataa uu kala go'in weeye marka waxaan leeyahay ilaahay ka cabsaday gabdhaha saha u galina oo ilaahay ka cabsaday gabadhu way kula dhalatay wadna dhali doontaa wayna ku dhashay waxaas oo kalo ninkana meeshuu joogana waa la yaqaanaa maxkamadda in la hor keeno haddii oo mataqaanaa laydinka xoog badan yahay reerkaasi oo saa loo bahdilayo Soomaali weligeed way kala adkeede dee noo soo sheegay annaga garab idin siinayne aniga horta intaasaan uga bixi lahaa ma garatay anigu sida Soomaalida kale uga gaban mayso waxaan leeyahay reer Xaaji Saleebaanow wallaahi wa uqsim billaahi waa wixii la isku leyn jiray arrinkaas rag hal loo laayaan taagan aniga fiiri waxaan xasuustaa dhaqan baan leenahay Soomaali hadana gabadh naaska bis laga taabtay ama diraceeda saa loo taabtay ayay rag isku dileen ayaa rag loo laayay gabar adiga inta la bahdilay oo masquul la soo dhax fariisiyo xaarka la cunsiiyay oo cawradeeda iyo oo mustaqbalkeeda dhan la baabi'iyay famil ahaan xataa loo baabi'iyay isir ahaanna loo baabi'iyay wax aan maqalay oon aragnayna ma aha taas waa mid la isku dilo waxa weeye diintaana qabto ninka in la soo qabto la dilo hadday keeni waayaan inay reeraha ku qoolin anigu waxaan taaganayaa reer Xaaji Saleebaan gabadhaas gogolba waa u gogol fadhiyaaba xilaaban ka dhiganaya waa u gogol fadhiyaa laakiin midda ku xigta waxay tahay in sidii gabdhaha sharafteeda lagu garan jiray geeyaanka lagu aqoon jiray sharafta haddii reer sharaf gabdhaha agtooda gabdhahoodu sharaf ka leeyihiin ay tahay yaan loo kala gabana gabadha rag ha loo laayo
gabadhii darteed ragga loo laaya ha noqoto waana idinkaga gol fadhiyaa gabadha tolkayna waa ay maqlayaan nin weyn waa tolkayna waa ay maqlayaan gogol baa uga fadhiyaa gabadhaas waa ka doonayaa guur xalaala ka doonayaa gabadhaas ragga loo laaya gabar sharaf loo soo doontay oo nin wiil soo doontay baa nin loo dilay daraad oo sheekada xataa oo maanta baryahan social media la dhax wadaad aragteen laakiin gabadhan miyayna dad waay Soomaalidu uga hadli waayday waay looga hadli waayay waay macnaha ee gabadhan gabdhaha waxa la yiri weesh qowrac dibiga ku xusub qaatee haddii gabdhahanagii oo Soomaaliyeed oo sharafta lahaa saa loo wada bahdilay laakiin maanta haddii mid qoorta loo dheereeyo way ku xusub qaadan lahaayeen wayna uga dambeyn lahaayeen wayna cabsan lahaayeen laakiin gabdhahanagii wallahi waana la bahdilay gabadhaasiyo maanta Soomaaliyeed hadda dad nasaba tihiin oo dad oo mataqaana magaca Soomaali leh hadda tihiin gabadhaas in loo birmado way haddayna reer xataa ka dhalan waa inuu nin Soomaali u soo aaray ilaahay baan kugu dhaartay nin Soomaali xataa inuu aaro way wax aan arag war gabar weyna la dhaafo waxaan ugu aareen baa jirtaa waxaan ugu aareen baa jirta horta wiilkaagu marka geeyaanka laga hadlayo Soomaalida dhaqan baa lagu leeyahay guurkana waa loo meeldayaa nin walba wuxuu rabaa wiilkiisu inuu abti leeyahay buu rabaa marka wiilkaagu inuu abti leeyahay waxaad ka guursanaysaa dad waxaad ka guursanaysaa wiilkaagu u baxsan kara bari abtinimadiisa horta gabadha aan maanta ayada falka lagu sameeyo wax rag isku laayo way aan reerkooda ka falcelinin hadda reerkaas gabadha aan ka guursado gabadhayduna bari haddaan anigu madax laabo oo maanta carruurtaydu agoontoomato abtiyaal ay la aada ma lahan bay noqonaysaa dunta la iska raacaa baashu dun bay Soomaali isku raacdaa dun gabadhu waxba ma noqonayso ceebna ma yeelanayso qof yar gabar yar oo jacayl lagu abuuray oo la yiri fiideo iska dub ceeb ma noqonayso laga arso maanta inaad gabadhaas ina 100 wiil loo dilo way u qalantaa ilaahay baan kugu dhaartay kuwa damba ku xusub qaadanay qabiilkaas buu ka nasabsan yahay buu ka xoog badan yahay sababtu gabadhaada intuu mashquul intuu ugu xareeyay oo dharka uga dhigay oo xaarka u cunsiiyay oo adigana live-ka lagu soo diray aad daawanaysid oo Asia iyo Europe iyo North America maxaa la dhahaa Africa iyo Middle East intii loo kala qaybiyay gaali iyo muslimiinta ay daawanayaan maanta familka ay ka dhalatay iyo dadka ay ka dhalatay baa loo baahan yahay inay miiska soo fariistaan ninka ama loo keeno ama 100 nin ay madax uga gooyaan baa loo baahan yahay kuwa dambe waxa sameynaya qof dambe oo sameynayana malaha marka waxaan idin leeyahay gabadhaas loo istaago taariikhda waxay qormataa la sameeyaa taariikhda waxay qormataa la sameeyaan waxa ritii rag la laayo waliba ayaan qabri loo aasine oo god cagaf la soo kaxiyo cagafta god saa ugu aasto oo ragga lagu rogo oo gab lagu siiyo qabuurihii sacadka ha loo baxsha qabuurihii sacad gabadhaas rag ha loo laayo wixii rag isku leyn jiray Soomaali dhaqan bay leedahay rag ha loo laayo gabadhana waa u gogol fadhiyaa haleegala xaajooda taagan dadkan qof aan waxba ka galabsanin baad way u xoog sheegataa oo bilaa macna ku dishaa laakiin maanta waxa lagaaga baahan yahay akaaga inuu ammaanku uga go'an yahay oo maaragtay in lagu dhaho waan idinka soo garbaxeena reerayo ha la fariisto inaad sugtiin xataa maaha wallahi inaad sugtiin xataa maaha inay ninkii keenaan ama in 100 nin maanta la soo duldhiga way maanta waxa weeye waxa la yiri waxaanan shantaada ana ka cilin sharci kaama celiyo horta madow kama gooyo adaa ku watee Soomaaliga nin hadii la dilo walaalka la dila katiinada intii lagu soo xiro lagu keeno markii laga heshiyo xeer waxa jirta in katiinada aad ka furto qufulka mag xeer baa jira gabar la guursado la xumeeyana xeer bay leedahay gabar la kufsadana Soomaali xeer bay ka leedahay laakiin gabar intii la qaawiyo la yiraahdo xarcun wax xeer ay ka leedahay ma jirto waa xiniyataaba حنية تابد ويو والله وإسر تابد ويو وصومالي تابد ويو قبلنا هاتي فميل كدالتي قبل هورتو ما صعد با وصعد با نوما لنا صعد ما صعد با قبل هو صايبان نينكا سعد قبل هو قبل صايبان وهبلتي رمضان قبل هو صايبان marka waxa loo baahan yahay reerkaas reer kaba xoog badne ee dadka kale awood iyo xooga ugu faantamaysan maanta gabdhiina musqulaha xarka lagu cunsiinayaa reeganimadiina maanta wallahi bilaa magac Soomaali oo dhan inaan ka tirtirno oo ka go'no way annagaan u soo aareyno annagaan wax soo qabanayno hadii awoodda maanta igana ku faantamayaan hadii maanta ay gabadhooda maanta wallahi ay baadileen nooc ku sameeyeen oo maaragtay ay maanta ay u aari waayaan waxa weeye mataqaana dad baa ku soo qoray waa kii xaarka cunsi gabadhaan u maleeyaa beenaal soo qoraya mise reerkaas uu diidaya mu runta u sheego mooriyaanka xuno dadka gabdhaha islaamiyada u galay xaarka cunsiinay soo dad lama dhalan soo tol ma laha soo walaal ma laha soo hooyo ma laha soo aabbo ma laha
dimirka alla idinka qaad ani intaasoo naga baxaya waana wallahi aad baan unaga xumaaday dimirkayga siin waayey aad baan kuu salaamaya aad qof baan kastoo kuu salaamaya. Soomaali leh uu ka xumaanaya aad baan kuu salaamaya qof kastoo Soomaali uu ka xumaanaya wax laga xumaadana way aad baan kuu salaamaya waqtiga qaaliga ah madow garaad soo taaga gacanta iyo ciise iyo dhamaantood waan soo qabanayaa waa in si cad runta la isugu sheegaa si cad runta la isugu sheegaa xeerka uga xurmo badan gaaladana ma jirto gaal iyo islaamba xurmay gabar agteeda ka leedahay sharaf bay ka leedahay gabadhana waa laga falceliyaa jawaab baa laga baxshaa jawaab baa ciise no answer wuu ku diidayaa waxbaa ka qaldan waa ku soo qabtay uu isoo kaa qaban waay jawaab cad baa laga baxshaa falkaasoo kale ma aha wallahi waa iga daacad iyo billaahi waxaan ka samayn lahaa qisan war iska daa wax kale haddii walaashii ninka aniga ii garanaya nina ii garanaya hadday maagto waa dharbaaxi kara laakiin aniga ii garanaya ma dharbaaxi kara nin walaalkay oo layga dilay maga waa ka qaadan karaa walaalkay oo layga dilay maga waa ka qaadan karaa laakiin mid tanoo kale xeer Soomaali iyo xaajadeed kuma jirto waa xiliya taabad cad oo bareera dhiig inuu u daato rag loo laayayna leedahay siciida waa ku soo qabtay kuma soo gaarin miya wuu kugu soo maqan yahay welina ma aadan qaban siciid helis welina ma aadan qaban سعيد وقبان واye waa in soo qabanaya kulligiin fursadda waa in siinaya kulligiin waa in siinaya bal aragtidiina ka dhiibta waa in siinaya qof walba aragtidiisa ninka la yiraahdo ciise maxamed bashiir adiga uu soo go'ay cilad baa ka jirta xaggaaga qof walba waa soo qabanaya oo Soomaaliya oo damiir leh oo ka danqanaya aragtidiisuna ka dhiibanaya kuwa waxay ku leeyihiin maxaa u leeyahay rag la laay waa wixii rag isku leyn jiray waa wixii rag isku leyn jiray waana la isku laayaa falkaan oo kale waana loo laynaya maxaa u leedahay maxay waa u leeyahay waana la isku laayaa wax la isku daayana ma ahan dumarka lagama kaftamo xurmo nin jareera bay mataqaanaa ay la samaysay baalkiisa ciise wuu ku diiday naadir mar labaad baan kuu soo celiyay adiga ma ogola ma garanayo سعيد حرشي هدو أول كوكب بسوي ويا هذا كاميرات كومرا ولا الكي باللعبة أو دي بوصل نقو على سعيد إنه يريك أو قرن تعطينا وكوكب بسوي ويا dadka qaar baalka update uma ahan umana qabsoomayo asaga iska soo jaraya ma aqaan qabiil gabadha qabiilkeedu waa gabar habar gidira waa gabar saleebaana oo beesha saleebaan u dhalatay ninka waxa sameeyana waa nin sacada ma fahanteen maya haddana ciise ma ku noqonayo ninka la yiraahdo ciise maxamed bashiir kuma noqonayo waa kugu soo maqan yahay qabso ciise maxamed bashiir no answer buu ku diiday adiga garaad soo dhawow aad baa ku salaay bara xarfo arrinka xalayna mar adoo ka soo hadlaya baan arkayay maxaad ka leedahay arrinkan anigu xalay waan ka hadlay dee runtii aniga waxa weeye keliya murugta itaabatay iyo maaragtay isoo qabo wixii maaragtay soomaalinimo iyo gabar dee walaashay oo kale ah iyo qofka waxaa sameeyey unbaa dhaliilayay arrintu qabiilkeeda iyo gabadh reerkeed tahay iyo cidda waxaa samaysay kole xogta adiga unbaa hadda kaa maqlay ma garatay sax waxa weeye de keliya aniga waxay taabatay gabadh soomaaliyeed oo maanta nin kasta gabadh waa la dhalatay nin jecel ma jiro walaashii in maaragtay xataa la taab il qaloocan lagu fiiriyo ninka uga faa'iidaystay jacayl ay jeceshahay ama allahuma istacaan macalaha ama lacag uu siiyey inuu ku dhaho saxara cun oo iska soo duub oo ii soo dir baa wax filan waa ay la noqotay ma garat sax waana dee wax kasta social media waa ku aragnay video kasta waa la isu diray wax aana ku arag ma jirto gabar qaawan waa la keenay kuwa waxa weeye dee si life isu cunaya waa la keenay
laakiin tan waa wax ka sii weyn ma garatay maya gabadhaani ma ahayn gabar oo nin intii wax wadaageen ama dareen ay wadaageen ama raaxo loogu talagalay ma ahayn sababtoo ah raaxadu saxaro ka mid ma ahan waa wax laga wiswiso oo baalkii ma ahan dalabkaani waa wax aargoosiya oo ku talagala oo ujeeddo laga leeyahay wey waa iska dareemi kartaa in mataqaana cadaawad fog ay meesha taalo sababtoo ah gabadha jirkeedaaba deeqo ka badan ayaa jirkeeda ayadan ka hagranina maxaa keenay taa isqaawisidoo jirkaaga dhan itusteed haddana saxarada aad musqusha cun maxaa keenay way noqon kartaa fiiri Soomaali oran karnaa ninkan gabadha jirkeedu doonaya inuu ku raaxayso miyaa oran karnaa maya tan maaha fiiri ninka nin loo soo diray sawir gabar qaawan ama fiido gabar muluqa ama gabar iyadoo suuli ku jirta ama guri jiifta iyadoo qaawan ama macnaha faris kula jirta wax kasta loo soo diray waa oran karnaa ninkaasu waxa weeye gabadhaas dareen ama raax ahaan waxbuu ka raadiyey laakiin arrintan markii si loo fiiriyo ama caqliga saliimka laga shaqaysiiyo uma eka waxa weeye arrin shukaansi ama xiriir dhinacan marka loo qaadan argoosi waadixa waa u eg tahay ma garatay arrinkan anigu dadka intay ka hadlayeen si anigu waxaan jeclahay wax markaan ka soo hadlay inaan soo hubiyo dadku xalay markay ka hadlayeen jacayl iyo gabadha qaawan fiidiyogeeda waxaa loo wareejinaya siyaabo noocaas ka hadlayeen laakiin xogta rasmiga marka aad raayso waxaan waa la baaraa maahan inaad lambar one iskala soo aado waayo ummaddu waxay u baahan tahay in la yidhahdo hebel baa waxaa sheega waa in waxa uu raadiya caddayn yeeshaa aysan hadhow adiga wax kugu soo noqdo aysan noqonin xogteedii rasmiga ahayd sida lagu caddaynayo oo ilaha weliba u dhow wiilka iyo dhallinyaradii asxaabta uu fiidiyoga usii diray oo la wadaagay si uu macnaha fiidiyoga suuqa usii galo asaga publica meesha ma soo dhigeen rag buu u diray la wadaagay waxaan ku maqlay ninkani ii sheegeen ninka waa ii tilmaameen nin saleebaana inuu yahay nin sacda inuu yahay deegaanka uu ku nool yahay gabadhuna gabar saleebaana inay tahay waxay ii sheegeen laakiin inay jidho gabadhan aabbaheed inuu gabar walaashiisa kufsaday kufsi u geystay okay waqtigaasoo colaad jirtay galinsoor deegaanka sacad iyo saleebaan colaa ay jira waqtigaa in uu gabar ku kufsado nin oday oo tuugo mooryaana gabadha uu dhalay kufsina u geystay maalinkaa okay baronow annaga hadda soomaaliya ka nimid soomaaliya wax kasta oo dhaca 20 sano hadda waxa weeye oo soo taagnayn macnaha intaanu qaangaarka ahayn 12 sano nin baa gabar kufsaday وعادي وعادي سوق وعادي نبا قبر دلي وعادي نبا قبر رير انتو حميي قبر ككفصدي ويدعي جرتي او اما نكاس قبر دا كفصدي ولاشي هلا كفصد او هلا بريتشيو اما محال دها اما رير ولاشي قبا صوفرين ادو دعدوين استبجوغا ويدعي جرين سوماليا ما قرات لكن نبا قبر لا كفصدي wuxuu ku abaalguday arrin aan hore uga dhicin Soomaaliya arrin ka weyn kufsi tan qof dhintay waa ka weynta marka loo fiiriyo wallahi markaan boos ka soo qaado waxin iyo taabasho waa dil marka u fiirisid gabadhii ninka jareerka caadiga sida guurka xalaasha u soo doontay nin dhan loo gubay qof nool baa loo gubay sidee adoo jareera gabadhayada u guursan kartaa idoo jareera baa wiilka dhan adeerkii loo gubay hadda gabadha noocan lagu sameeyay oo aan dhimashada iyo nolol midnahana wax aan soo dhicinay tahay maxay kula tahay dadka ay ka soo jeedo gabadhu ila gabadhii jareerka darteed loo gubay oo gabadhooda reerkaas baqaaleed gabadha reer kama raqisnee maxay reerkoodu falcelin ka samayn karaan wallahi billahi tallahi markii horta run marka loo fiiriyo ama booskeedu adigu maanta aad taagan tahay ama anigu aan taagnahay laba qof iska daaya xataa ninkaas iyo aabihii iyo walaalkiiba oo la dilo xataa wallahi oo billahi taala tanaa ka qiimo badan marka loo fiiriyo oo ka argagax badan naf way go'daa waxa weeye waligeeda nin la dilo horu ka dhimanaya waa la reebel baa nin la dilay noqonaysa laakiin midaan waa wax aan waligeed harayn way waa wax aan taariikhda waligeed harayn waxa waliba asxaabta ugu celisaa waliba waxa macquul xogta asxaabta inaan ahayn anigu kula hadlayo dadka hadda ku daawanaya kamid ah xogta maan ahayn asxaabta soo gashan ugu celi waxa weeye arrintan si u dhacday ugu celi inta gadaalka soo gashay gabadhan arrintan waa ana wi brown soo baaray nin baa gabar kufsaday baa leeyahay nin baa gabar kufsaday hadda ka hor ninkan wax hadda gabadha ceebeynaya aabihii baa leeyahay gabar
maxaad gabadha aabaheed miyaa mise gabadha adeerkeed gabadha aabaheed baa wuxuu kufsaday gabadha ninkan walaashii weyn waa dee wax waa oo soo dhacay gabadha ninkan Afrika wuxuu joogaa Tanzania uu joogaa gabadhan waa loo sheegay inuu baalka dhalay Facebook kala xiriir buu la sameeyay jacayl baalka halkaas la martay ha marka waa aano waana laba reer baa la yiri oo walaala ah oo isku tola oo beesha habar gidir kamid ah gabadha Salebaan baa inaad tii wiilkan cayr Soomahin sacad Salebaan bay waan arin waxa weeye argagaxle run ahaantiina maanta arinta xataa dil way ka weyn tahay dilku qofku waa dhintaa hore loo soo dhimanayay waxa weeye ninkii jaraarka ee gabadhii abgaal ninkii jaraarka ee jeclaaday muu guursan wuu jeclaaday fiir waa jacayl ba adeerkii loo gubay markaa muu guursan aroos lamuu tegin lama u dhuuman maxaa la Soomaali wala gabadh baa la dhuuman jiray wax la geli jiray baadin la aadi jiray waxa weeye magaalo kale la goyn jiray ninkii jaraarka gurigeeda joogtay reerkeeda la joogtay waxa weeye nin baa loo dilay naf baa go'day laakiin tan argos intay dhaaftay oo ka xum waa ka sii xuntaa waliba wallahi wax aad looga xunaa anigu waliba waxaan ka sii xumahay aniga qabiilhaanba iyo arinta qabiilhaan uga sii waxaan ka xumahay maanta gabar Soomaaliyeed in waxa lagu sameeyo ninka sameeyana waxa weeye si dhaqsa in dad waxa weeye dhalinyartu waa la iswada yaqaanaa hadduu ninka socialist mana kale waa la keenayaa talaabo sharci waafaqsan waa laga qaadayaa haddii kalena dee uu joogo wadankiisa joogo oo dadkiisa la joogana de kale waa dil wax dil naftu xataa way dhaantaa kan naftu way dhaantaa naftu iska jirta ma anu waxa weeyba gabadhaas raga loo laayo adduunka fiiri taariikhda sharaf dhac maanta gabadhaas raga loo laayo markii rag loo laayana gabadhaas anaaba uga gogol fadhiyo oo wallahi oo billahi oo tallaaya taariikhda ha gasho gabadhii ragga loo laayay ha noqoto markaas ilmahayga abtiyaal way leeyihiin waa gabadhii ragga loo laayay ana uga gogol fadhiyo soo cawrada social media wareegayso madal baa ka balqaadi ana uga gogol fadhiya ugaasideedii adeerada iyo tolkay baan leeyahay madal waliba xataa qoyskay ka gogol fadhisanaya aabay adeeraday ka gogol fadhisanayaan ilaa heer ugaas qabiilan uga gogol fadhiisinaya qabiilan leeyahay ka gogol fadhiis oo gabadha ii doona qabiilan leeyahay tolay hadaan la ii doonin waa taloobaya qabiilan leeyahay la ii doona gabadha oo xilaan ka doonaya waa gabar yar oo qurux badan oo dhuuba dhex yar oo ilaahay waa maskixiyan baa loo qaldo waqti baa jir way waa la baalkay waana arin laga ciishoodo oo laga baalkay wa ciil maxay tahay wallahi aniga hadda markaan qabiilada waxay isku laayaan wiil abti loo yahay baa qabiil la isku laysaa wiil abti loo yahay baa qabiil la isku laysaa may aniga kula hadlay Ciise Maxamuud baa taariikhda waxa arkay xataa taariikhda hadda markii la fida Ciise Maxamuud reerka la yiraahdo baa waxay isku laayeen wiil warsangaliyo abti loo yahay Ciise Maxamuud baa isku laayay taariikhda qabiilada abti wiil loo yahay isku laayay baa la yaqaan reero dhan baa isku laayay Ciise Maxamuud ma jeerteena waxay isku laayeen wiil warsangaliyo abti loo yahay abti wiil loo yahay la isku laayay maxay tahay gabadhuna kuma jirta xeerka gabadhu waa ka baalki waa la yaqaanaa Soomaalida waa birimageedo ma karto birimageedo weeye hadda waxa weeye aad baan ku salaamaya iid baan fursad siinaya aad baan ku salaamaya iid soo qaba aad baan ku salaamaya laftigeygu fikirkaana de waxa weeye kulli arintaas ilaahay si fiican ka dhigo reerkana waxa leenahay de gabadha waxa weeye de maanta rag baa u fadhiye ficil ka sameeya waan ku salaamaya aad baan ku salaamaya sidoo kale iid baan siinaya oo meel shaqaan ku jira inta boodsaa oo haysto qofka shaqada jooga inta uu boodsaa haysto chance haysta marka kelmadda dhaho salaamaya abti ku salaamaya soo dhaweey abti horta abti arintan dhacday waa arin diinta islaamka iyo dhaqanka Soomaalida iyo waxa bini'aadnimada ka baxsan hadalku isoo saddex joogo 30 lagama dhiga abti waxa weeyaan waana ku mahadsantahay abti inaad iga qayb geliso barnaamijka horta kow barnaamijka waa la kala horeysiiyaa kow gabadhii horta in la badbaadiyo intaan dhibaato ku dhicin oo intii dhalinyartu is urursadaan gabadha qalbigeeda rag baa guursanaya cad Soomaali xumaantay faafisaa wixii baa la sii wadaa kow gabadhii iyo faamilkeeda in la xiriiro oo gabadha la badbaadiyo la xiriyaa meel bilaa dab lagu xiriyaa gabadhii in laga warhayo in ay isdiishay iyo in kale laba xaqiiqa hadii laga hadlo 10 nin hadii loo dilana waxa la sameeyay wax la soo aari kara ma ah 10 nin hadii loo dilana wallahi wax lagu argoyn karo ma horta lama calaamadii lama garanayo horta
mid baa lagu badbaadi karaa hal mid baa lagu badbaadi karaa halka mid lagu badbaadi kara waxaa weeyaan ninka liibaan la leeyahay intii geed lagu soo xidho haddii bab laga siiyo taas abti waa lagu bogsan karaa sababtoo ah wixii wuu dhacay laakiin qofkii fal ka sameeyey waa la toogtay waa yacnihii ka dambena uu ku badbaadi karo adeer gabdhaheenna waa masaakiin gabdhaheenna wax kastaa lagu samayn karaa marna gabadhu dhaliil ma laha marna waa ilmo yaroo 15 jir ah waxaan ay samaynayso yacni waxbaa lagu abuuray maskaxdeeda la wareeriyay marna anigu melihi gabadhu way qaldan tahay mar walba wax gabdhaheena bahdila waxa ceebeeya waxa asturi kara waa inaga waxa gabdhaheena sharaftooda ilaalin kara waa inaga haddii ninka intii loo aamuso qabiil iyo wax loogu aamuso oo la soo diin waayo waxaa qasab in adeerkii ehelkii abtigii adeerkii in loo dilo oo wallaahi oo bilaahi oo tallaahiya dhaaxaan Soomaali baqbaqlayn ninka haddii intii la soo xidho meeshuu dooni ha joogay intii laga dejiyo Soomaaliya ninka geed lagu soo xidho la dhaho wakaas hala toogto waa waajib in la toogtaa haddii kale ayna ahayn meel kasta uu joogo in adeerkii wallaahi u dhiman ka qabiilkiisa u dhiman oo bilaahi oo tallaahiya waxan walaashaaba ku dhacaysa war walaashaaba ku dhici war walaashay bay ku dhici war walaalaheen bay ku dhici war waa walaasheen war dumarkeenu maskaxda waa laga bedeli karaa war waa ilmaha yar inta aragtay la eg waa ilmaha yar war Soomaalinimadii away war damiirkii away war dadnimadii away war miyayna hooyo dhalin war miyuna gabadh la dhalanin war ma dhagax buu ahaa liibaankaas hadduu Soomaali yahayna la soo istaajiyo hadduu qof kale waxa waajib ah hadii kale wallahi waa nin dhalinyaraayo la garanayo caadi sida lagu garanayo oo meeshuu jooga la garanayo asxaabtiisa fiidiyowga u diray caadi u sameeyay la garanayo way barnaamijkan waa barnaamij silsilad dheer waa dakana fog oo silsilad dheer abtu guddi saar arrintan hala baalo gabadha reerkoodina la xidhiidhaan isku daya gabadha in la badbaadiyo hala isku dayo talaabada koowaad horta waa gabadha تحيكا كوداد وإن قبلنا اللي بدباديو أما أنتنا إسقوين أما أنتنا إسدبين قبلنا إلا بدباديو ويان ولي وحال غيا أبا قبلني كور هلين إن أي كور هالشيء أيضا وحال حالة مصابة وحنا الصومال ما تقول أصلا حرير كيسيبان هليا صابته وحنا قانا طليرة وقول دو صاحب بدي سؤلو ذا جبنا قانا أنا برنامج كأول مركي ورا محبة كمان سبالكي مركي لكن لا يشي جاي وننكي طليرة قدرة عادي ولا بتشو جبا تاسا إغلايتي يا بناتي أول واحد حتى فيديو ما كرر مرة مثلا دليل أي صوت تروحين فيديو عادي وقف جبرة إنن قدرتي أو لسوق رحية ما أعرف ما سيد ما يستر ما كذا ما يستر تدار كيسا صحراء الموت مرة كرر حسك مثلا فيديو قف رحاية قف لودري والله واكجود مرة بيع أو الصور بالكيا أو صورك أنت على صورك هي بالفيديو هذا اللي وصل دردبو فيه إسلام مرة كانوا فيديو اللي يبغى دليل سو على إيش وروا هبل وكنا ورنقيه وروا نسعة وكاسة بال قبلنا وقبل سلام أم حاد وروا سلسلة دير هاوش وشجع ورد وحنا وح نقون كرام معهن وح بهلك نقون كرام معهن وح لولا يلسن كرام معهن وح متقال لو عيار كرام شلا بينو أوجين تيا هذا رواية هنقول لك هاللي أو نكيل جود لي شرير أو لي روا أشوران هذا لي أشوران بو نكيل لي أما أشوران هذا أما شرير هذا جوجل حلال أو جور حلال بنفس اللوجو غير كجوبي محيو جوبيين قبل هذا لقى السنة قبل يدو سداد شرير بيلهاي الموت قبل الغسل وقبلنا المركز تاس يقول بيبقى عايدين تنكور أكبرنا وقتها يقول يرشقان كتير وحاول أنا أبتي معاني كو هرتا دولة الصومالية ضحون بقصة وحمي هجاجس دولة الصومالية ماشي هذا تن عيسى وكلا أنا بقول كيف بقول دولة الصومالية قرض بيسميس والميل ميديالو ميل هو يكحر أنت هاي إلا ده أراس بالله سمينا يا الله ده أراس قرني بالله سمينا يا ده وح بالله إسكو سيدرا يا سيد ما لا يريسا gabadha iyo wiilka in ay nolol wanaagsan ku noolaanayaan baroonow sababtoo ah gabadhu hooyadeed saas ku xidhan tahay nin adeerkii ay sadohdii leeyahay sadohdaaba adeerka dishay ma malaynayo inay wax ku xidhmayso marka Soomaalida iyada bad isku bumayso abtiwaan kaaga baxaya gudi u saar meeshan gabadhan in la badbaadiyo ninkaana kaliya waxay dagaal qabiil uu ku istaagi kara oo wallahi oo bilaahi oo tallaahi haddii liibaan intii geed lagu soo xidho wakaasi toogta la dhaho haddii kale marna kama fursanaysa inay gabadha rag u dhintaan de haddana rag la dhalinayna waxa la dhalinay ayna cid ka dhalinay qabiil ka dhalinayna de ha waa besti way iska dulmanaan kuwa Soomaali ban oo la dulmiyaa jirtay kuwaas ka mid noqon aad baan ku salaamaya qofaan meel ka dhalma jira aad baan ku salaamaya sidoo kale aad baan ku salaamaya shaqo qeyr badan ma ku rajeynaa wax ma taqaana Ciise Maxamed Bashiir gacanta hadda soo taaga brotherkay awal uu soo qaban waayay inuu ku suurtagal qof kasta oo Soomaali
garab istaagaa muhiima qabiil ma matala qof dulliya qabiilkiisa ha warso cidduu doonaba ha ka dhashay hadduu in adeerka yahay anigu hala dila oran lahaa qabiilkuu doonaba ha ka dhashay ninkaa weerar cad oo dhammaystiran hala weerar ninkaa hala dilo rag ha loo laayo gabadha rag ha loo dilo soomaali waa kala baqdaa rag ha loo dilo ree xaaji saleebaan hadday wiilkaa waayaan asagay dili waayaan war konton nin oo sacada u dila war konton xataa ma dabeed 150 nin oo sacada u laaya qabuurihii sacadka sameeya gabadhana aniga iga soo gogol baan u fadhiyaa gabadha anaa doonaya u fadhiya halla igala xaajoodo markii gabadha rag loo laayo gabadha anaa u gogol fadhiya sababtaa waa gabadhii ragga loo dilay wey gabadhaas ree xaaji saleebaan rag ha u laayaan ilma adeer baa nahay habar gidir baa isla nahay sacad saleebaan baa isla nahay ma jirtee rag ha loo laayo سعيد بان سoo qabanaya raga loo laay maalinkay gabadha rag loo dilo nin dambe oo Soomaaliya ku wiirsanaya wallahi bay isla gabarjay anigana Google baan u fadhiisanaya qabiil weyn aan waliba u diraya qoyskayga ma ana qabiil weyn aan u diraya Google baan u fadhiisanaya gabadhaas aan u Google fadhiyaan la igu daro madal baan u fadhiya waa gabadhii rag loo laayay noqonaysa gabadhii rag loo wiirasheeduna abtiyaal bay yeelanay السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته برادر كوسو دو برنامجك waa la socotay aragtidaada bal ka dhiibo falkan foosh xun ee dhacay in adeer waa la socday waa mahadsantaa adiga asxaabta meesha ku jira aad baan idin salaamaya waniyo waxa dhacay waxa loo dul qaadan kara ma wallahi ciil waa si xun weyn wallahi gabadha Soomaalidu ciil fiidiyoga waa fiirsan waayo wallahi waa ka jeestay war hal dilo cunuga tiirka la soo taago wallahi waxaan Soomaali dhaqan u lahayn buu sameeyay aan Soomaali dhexdeeda ka suurtoobin gabadh la kufsada aragnay gabadh la dilo aragnay laakiin se waa maxay gabadh xaal la cusiyay war gabadha waa miskiin waxba ma dhibin waxay dhintay male waa miskiin laga aqli badiyo jacayl loo sameeyay dad baa waxay leeyihiin gabadha inuu raaco war nooca raaxo ma noqoto raaxo sidaas ma noqoto ninka raaxo hadduu rabo siyaabo kale oo gabadhu waaba jeceshahay waaba u free bay isaga dhigtay laakiin se waa bahdil weey bahdil way lagu bahdilayo anigu ma aqaan aarsiga haddaan ka maqlay adiga ma ogeynba wuxuu ula jeeday laakiin waa nacs gabadh Soomaaliyeed maya sida xiriir uu sheegay waxa la ii sheegay gabadhan aabaheed inuu hadda ka hor gabar kufsaday wiilka walaashiisa uu kufsaday waxa la ii sheegay inay ka dhacday meesha la yiraahdo Galisoor waqti colaad labada reer sokeeyaha ee wada dhashay colaad Galisoor waa ka jirtay ahayd inuu ninkaas ahaa Mooryaantii maaga meesha joogtay inuu waaga gabar ku soo geystay wiilkana inuu hadda Afrikadaas ku sugan yahay gabadhan uu xiriir la soo sameeyay jacayl iyo baarka la jiray laakiin lacag iyo ku farqayo heerka noocaas uu kasbashada gaarsiiyay danna uu sakalayn jirkeedana uu sadoonaynin ilmo yara oo hadda soo kacday oo Andrey 17 jir 18 jir ah ajkeeda u dhaxeeyo oo uu kasbaday oo wax walba de waa iska garanaysaa nin dhalinyaro oo ku dan fog leeyahay ujeedka uu ka rabayna oo ahaa argoosi ugu aarayo walaashi dulmigan gabadha haysta aabeed baa geesay la sheegay laakiin waxay tahay in laga falceliyaa Soomaali iska dhaafay gaal iyo islaam gaalana Allah ka dhigay adduunka kama ay soo dhicin midaan adduunyada kama dhicin gaalada uga ixtiraam badan gaalka cid uga ixtiraam badan dumar ma jiro cid xaq dumar duudsisa oo baalkii Soomaali ay ma jirto marka arrinka shalayna waxaan ogeyn gabar nin xalaal u soo guursaday oo Google u soo fadhiistay oo ajuuraana oo marka la jareer ba ha ahaade in nolosha lagu gubay marka midkaani ma laf ahaan baa lagu badbaadinayaa ma social media qaybna ma qabiil bay ku difaacaysaa qaybna ma waxay leedahay baalki Soomaali sida aqli ma noqonaysaa qabiil male ninkaas Soomaali meel kasto ay joogto iyo muslimiin waa in meel looga soo wada jeesto qabiil male nin xun qabiil male inaadeen gabadh Soomaaliyeed waa walaasheed meel kasta nin kasta way la dhalatay in la xumeeyo raalli kama nihin wallahi ninka meel uu joogo haddaan garan xitaa hadday aarsan waayaan u dili waayaan wallahi billaah waa Soomaalideena kale wallahi ninka wax ka qabano inaan wax ka qabano way haddii kale waa jacaylka xarka la cuno waa jacaylkii qarniga iyo jacaylkii qofka loo gubay waa jacaylkii qarniga sheeko noocaas ay degan yihiin Soomaalida war gabadhaas nin loo dilo ninkaasoo la dilo iyo in 100 nin loo dilo maaha wallahi billaah tallahi ka harimayso godobtaas aniga salaabaan waxaan ku aqaan dad aarsadan niyo salaabaan gabadhooda ha badbaadiyeen oo gabadhaana hala badbaadiye maanta inay nooshahay malayn maayo wani cuqdadu nafsi bay u dhimanaysaa waa isdilaysaa gabadha niyo
social media saa loola wareegayo wallahi billahi emotional baan noqday saaxiib aad baan ku salaamaya waa ku mahadsan tahay aad baan ku salaamayaa sidoo kale dadka kala aragtidooda qofkii laba siin iyo laftiga waa kasii baxaya aad baan ku salaamayaa qof kasta oo Soomaaliya damiirna saas uga wada gubanaya aad baan ku salaamaya aad inaad waa mahadsan tahay wallahi damiirkayga adaa mudan qof miirle oo Soomaaliya aan ka dhidhiyeen ma jiro qof aan ka dhidhiyeen ma jiro ninkaasi wuxuu mudan yahay in la dilo dil waliba hala jarjaro hala ka waa la dilay oo dhintay noqonaya xataa ma baaysatani waa wax qof walba oo Soomaaliya oo damiir leh oo hooyo dhashay gabar la dhalatay gabar u dhaxdo wax uu ka gubto way warniyo xurmada goormay war wax ayaantan waxa socdo oo dhan waa dulmi dumarka war markay islaanta maama milyan la leeyahay ooyeyso ay leeyihiin dumarka waa la abiyiso waa la yartaana waa caysaan waxa la rag ee dumarku darasa war dumarka waa runtooda dhibaata lagu hayaa dumarka war dumarku waa masaakiin waa dad qalbi jilicsan waa hooyo dumarka dhan waa hooyo gabar aato ama baalka aad kulli waa matal hooyo ama ha qaangaadh ama qaangaar wallahi waa matal hooyo kulli waa isku wada mid waa dad qalbi jilicsan kalsooni inta lagu beero oo jacayl lagu beero oo la kasbado baad mulkinaysa marna waxa la yiraahdaa waa ruuc weyn waa war adduunka hooyo wax u dhigmaa ma jira waa naxariis waa jannada adduunka way hooyo waa janno adduun way inna lillahi wa inna ilaahi raaji'uun qabiil baad rabtaa inaad ku difaacdid waa tiraad waa in adeerkay kuwa waxay soo qoreen Sacad Saleeman waa dad walaala war Sacad Saleeman dad walaalnimadooda laga hadlamay gabadhu qoomiyad bay ka dhaltay nin qoomiyad buu ka dhashay qoomiyadii gacanta ka soo galisay ninkii ninka loo tagto dulmiga nin baa sameeyay marka hore hadday dhici weyso way dhacaysaa in aan dadku Soomaaliya ila qabiil bay isku dishaay nin waa looga aaraa kale haddii asaga la waay dad kale waa loo dhacaysaa in loo dilo way dhacaysaa Soomaaliya ka dhacaa laakiin ninkaas munaasib mudana ninka la soo qabto ninka la soo qabto ha la jarjaro waliba qabiilkiisu ha keeno hadduusa qabiilkiisu keenina haloo dibaalkeeyo haloo laay wallahi oo billahi oo tallahi anu ma qaba maanta hadii 100 nin loo dila xataa in guul laga keenay ma qaba 100 hadii loo dila xataa iyo ka badan laakiin magaca dhawaaqna meel dheer buu dhagaxna meel dhow ku dhaca dhawaaqna meel dheer magacaan ha looga dagaalamo waa arin fool xun oo wuxuushnimo oo aan bini aadamnimada aanan meelna ka soo galin way Soomaalina aan ka dhicin fal hore u soo dhacayna aan ahayn soo qabso walaalkay in jawaab cad laga bixiyaa waajiba jawaab cad laga bixiyaa hal dhanna laga maro isku dhanna laga noqdo isku meelna looga soo jeedo si Soomaalnima oo dumarku waa inoo dhaxeeyaan Soomaaliyeed dumarka yaa kala qabyaaladeen yaa la kala tuutur kala baaqeen walaalkay ka hadal fikirka waraadi aad baan inii salaamaya qofkaas rabay fikirkii aad baan inii salaamayaa intiina social media waad isticmaashaan gabi ahaantiinaba si wada jira oo Soomaalinimo leh oo inaad arrinka ka xuntihiina bartiina bulshada ku soo cabira ka dhiidhiya ka hadla gabar yar oo horta mid la yaab ka dhigina 80% qurbaha dhalinyarada joogta iyo gabdhaha wadankii jooga 80% fiidiyowyada ama muuqaalada way dhaxmaraan maxaa sababaya adduunka dhan bay dhaxmaraan Soomaali wax u gaar ah waxa sababaya labada qof markay xiriir leeyihiin jacayl ka dhaxeeyo waa laba qof waa nin iyo naagtii kala maqan oo kale kalsoonidu markay gaartay heer labada qof waqti long time sanad laba sano xiriir soo lahaa heer ay kalsooni intay kaamirad ku wada sheekaystaan mid walba soo kaamirada u furan dareen ay wadaagaan ama ay jirkiis qof kale jir kale la wadaago waa wax dhacaw wax soo dhacaw ma ahan inay gabadhu saqajaano tahay inay falxun samaysay inay baalka samaysay waa wax dhacdo oo caadi ah horta ma garateen yaan laga dhigin waa la kasbaday jacayl baa lagu beeray waqti baa lagu bixiyay kalsooni baa lagu beeray mustaqbal iyo future iyo team inuu ka leeyahay qofka kalaas gabadha gabar walbana way doonaysaa dadka inay gabdhuhu rag ka wada aamin baxaan meesha ma taalo yaan laga dhigin gabadhu inay baalkeysatay macsiisa seebay ugu duubtay ma ahan qofka intaas oo ku baa wada kala haysa gabar walba sawirkeeda wiilba sawirkeeda laakiin ma ahan inuu qofku waxay gabar kula wadaagto wax adiga ku waxa la wadaagto ma laakiin middan waa fal ka duwan oo waa dareemi kartaa xataa inuusan dareen ka doonayn jirkeeda inuu ku raaxaysto inuu iska doonayn laakiin ka doonayay falkan inuu ahaa fal xumayna ku talagala ciise ku soco الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن هذا البرون كل سلام يا آد بان كان غادي هذا كوسع
asxaabta 300 kor u dhaafaysa nimankan waan salaamaya sidoo dhan yihiin rag iyo dumarba aad iyo aad sidoo kale ayaguna waa kaa qaadan barwaano inaadeer wallaahi waxaa ka hadlaysid waa arrin aad u muhiimsan waqtiga loo baahnay aad leef ka soo noqoto wallaahi waxa weeyaan qofna isma lehen arrinkan ku dheeranaya ayaa leef soo gali doona isma lehen bade qof walba si buu u baqanayaaba adiguna waxaad ku mahadsantahay sidii bilaadanimadu ku jirto aad gabartaa ugu istaagtay iyo waa wax diinta iyo dhaqanka soomaalinimada iyo midda wallaahi inaadeer qaali sax marka taa laga yara hadlo dee waxa weeyaan in 100 rag loo dilay xitaa way ka weyn tahay inanta qabiil oo dhan in loo lahayo weyn xaqiiqada haddii laga hadlo haddii kale waxa lagu qanci karo waxa weeyaan inan kaa liibaan meel alaala meeshuu joogo iyo waddan alaala waddanku ku nool yahay in lagu dhex dilo haddii efin dhacdin dadka meesha ku dhex dilo maxkamad la soo saaro in la tasha ninkan wuxuu u sameeyey in arrintaa keli reero isku dhamayn rabeen sidaa darteed ninkaa loogu dilo markaa kadib qofkaa waddankaa ku dhex dila dee maxkamad lama soo saarayo dee waxaa laga yaabaa bilad gooni in la siiyaba sax waxaan arkaa hablo badan halkan kusoo qori naagtu maskaxda miyaa loogu jiraa miyay waalantaha maxay isku qaabinay maxay sidaan u sameynay xaqiiqada markaan ka hadlo aniga baa iga sar وكاغو يا عيسو وكاغو يا عيسو عيسو وكاغو يا نتكا كاحن عيسو وكاغو يا لغو مقلو هذا حقا وروين حمد ويفيق نتكا من داك دربتا ومالينيا ويفيق من حافظ ميل كلا هاي كوسع ما هذا مغلا سوري هذا ما كيدو ميسي والله مغليي لكن قد كا غوغو كا اها لكن wuxuu ka hadlay falkaas sidoo uga xun yahay ka xun mala ahan gabar laga doonayay qof la wadaagtay dareen ama bahalki laga doonayay waxan waa wax ujeed ku talagala xumayna sharaf dhaca lala maagana qabadha iyo qoyskeeda iyo cid walba tahay iyo qoys walba tahay war aad baa inii salaamayaa dhammaantiin laakiin waxaan inii sheegayaa barihiina bulshada intiina hadda i daawanaysa iyo inta kale ayaga sii daawan doonta iyo inta fiideogan gadaal ka daawan doontaba si wada jira barihiina bulshada arrinka uga wada dhiidhiya soomaaliya ha noqonina dad xumaanta ka indha tira wax maalaa yacniga cidladana ku wareega xumaanta ka dhiidhiya oo ka hadla ajar iyo xasanaad baa ina kugu socday xumaanta ka dhiidhiya war xumaanta ka dhiidhiya war si wada hadla uga soo wada jeeda war inaadan la qabin oo aad ka xun tahay oo damiirkaaga uu ku siinayn ay falkaa fal wuxuushnimo yahay war ka dhiidhiya oo kasoo jawaaba oo kasoo falceliya ajar iyo xasanaad baana kugu socda wax badan baad waxyaabo maala yacni inaad kasoo hadasheen laga yaabaa laakiin tan waa waajib tan waa inu ku waajib waana wax ilaahay agtiisana aad ugu dhawaanaysaan ajar iyo xasanaad uga helaysaan arrinkaa ka hadla gabadha yarta ee masaakiinta ee aan qaangaarka ahayn ee maskaxda laga xaday ee la baalkeeyey waa in falkaas laga soo hadlaa yaana la caayin gabadha yaan laga dhigin jacayl yaan laga dhigin bahalkii jacayl dareenkeeda iyo jirkeeda hadduu ku rabo wuu haysta iyadan cidina ka jira qurba badnayn hadduu ku raaxaysanayo laakiin falkani ma ahan waadna dareemi kartaan dad ilaahay caqli siiya baateen saxaro laguma raaxaysto waa wax laga wiswiso oo qofku uf dhaho uusa xataa daawan waayo muuqaalko dad baan daawan dad baa ilaa hadda wax cunila oo daawan waaye marka arrinkaas intaad aragtaan si wada jira uga dhiidhiya ugana soo hadla kana soo falceliya waana ini salaamaya dhammaantiin